waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qaybtii koowaad sheekooyinkii iyo waayihii garaad wiilwaal. dhegaystayaal goor lagu malo weyn yahay inay ahayd bilowga qarnigii 19aad ayaa wiilwaal wuxuu ka soo ifbaxay galbeedka Soomaalida gaar ahaan banka Jigjiga iyo dhulka u ogogale ee ay iyadu ugu magac dheer tahay. waxaa dhalay garaadkii qoladiisa u madaxda ahaa ee la oran jiray garaad Faarax garaad Xirsi. wiilkaasi markuu u dhashay ee loo mashxaradayna wuxuu garaadku ku sameeyay isaga aabihiis wan weyn intuu gowracay ayuu Xirsi ugu magac bixiyay. waxay malaha la ahayd magac daridaasi inay keeni karayso inanka uu awowgii ka raaca tilmaamihii wan wanaagsanaa ee uu lahaan jiray amaba lagu malaynayay. iyada oo weli xambaarsan ayay hooyadii waxay Xirsi ula kacday reer abtigiisa oo dagaankoodu xagga bariga ahaa. sabab ku jiiday nalooma sheegine halkaas ayay muddo dhowr gu ah kula maqnayd. habkii nolosha reer aabihii iyo midkii reer abtigii way kala duwanaayeen. halka reer abtigii ay giddigood xoolo raacata ka ahaayeen, reer aabihii xoolaha ka sokow waxay ahaayeen qodato dalagga beerata oo inta badan aan guurguurina meelo aan kala durugsanayn ku nagaata. sida la og yahayna labadaa hab nololeed dadka ku kala abtirsadaayay way kala anshi duwan yihiin. muran badan iyo firfircooni xaddhaaf ah ayaa xoolo raacatada lagu xantaa, beeraydana deganaan wax u fiirsi badan iyo fakar aamusan. dhirif iyo gacanta oo ka soo horraysa ayaa xoolo raacatada lagu tilmaamaa. kol walba dirir bay u tooghayaan, waxayna ku maahmaahan dagaal gondahaaga ayuu ka dhashaa. beeraydana nabad jacayl iyo dulqaad badan ayaa lagu sheegaa. waa laba dabeecadood oo labada hab nololeed ay ku kala gedisan yihiin, dadkoodana lagu kala sooco. Xirsi oo kuray ah, reer abtigii iyo geeltirannimana ku soo barbaaray, ayaa galbeed iyo reer aabihii dib ugu soo noqday. ileen waa inankii garaadkee markiiba daymo siyaada ah ayaa loo yeeshay. mase wiilasha kale ka fudfudud, wiilasha kale ka firfircoon, wiilasha kale ka waxtoyasho badan, wiilasha kale ka su'aala dhiiran, wiilasha kalena ka qalab badan oo ka dagaal aqoonsan. intii meel isugu timaadaba isaga unbaa ka soo muray oo wax u teeleeyey. isaga oo aan la magacaabin ayuu madax isaga dhigay. isaga oo aan cidi u shuuminna waa u teliyey. odayadii degmada midkood oo u fiirsaday ayaa yidhi, warkani waa jinni boqor. naanaystaas ayaa muddo loo yiqiin, inkastoo waayadii dambe ay ka hadhayoo loogu beddelay naanays kale oo ku dhegtay taariikhdana uu ku galay. waa naanaysta uu caanka ilaa haddaba ku yahay ee ah wiilwaal. weli isaga oo aan qaangaarin ayaa geesinimo dheeraada lagu arkay loona qira. maalintii uu 15 jirsaday ayuu colwadeen noqday. guutooyinkii tolka ayuu ammaanduule u ahaaday. da'daas oo kale wiil wiilal ka fooray mooye cid kale hogaamiyenimo kuma hanan jirin. dagaal aqoon, fardadhaarinimo iyo gacan fudayd lala yaabay ayaa barbaarnimadiiba lagu bartay. weligiisna siday wariyeen cid ay isqabteeni nabarka lama hormarin. feejignaan siyaada ah iyo tuhun joogto ah oo dad oo idin uu ka qabay ayuu caan ku noqday, kuna tilmaanaaday. had iyo jeer warmihiisa iyo qalabkiisa dagaalka gacantiisu meel aanay ka gaari karin kuma uu ogaan. aabbihii garaad Faarax baa dadka u boqranaaye isagii baa haleeyeyoo inta odaygiiba la iloobay ayaa magacii wiilwaal lagu hadaaqay. nin waliba waa ka baqay, nin walibana ilaahu gacantiisa iga nabadgeli ayuu ku ducaystay. duqii dhalay oo weli ifka saaran ayuu taliyey oo waxna dilay waxna darajeeyey. hadal uu yidhi cidima diidi karin mana asaraari karin. nin malagiis galay mooye nin maya kula dhici karayna lama sheegin. geyigu waa geyi colaadeed, dhaca xoolaha iyo dilkuna waa joogto. caanawaa iyo cayrnimo ninkii ka baqaayay wuxuu u tafaxaytay geel uu xoog ku soo taabo. kii dakana laga qabayna kii ka hayay ayuu ka doontay, birtana u tuntay. soomaalida ka sokow waxaa mar walba laga dareen qabay gaara madow oo iyada iyo bartiruhu ay col xiira ah ahaayeen. markaas buu garaad Faarax soo rogay xeerar cusub oo tolalka kale ee Soomaalidu aanay aqoon jirin. wuxuu guddoomiyey in la ururiyo niman soo jeedayow loo bixiyey oo hawshoodu tahay degmada cirifkeeda inay habeen oo dhan ku wareegaan, inay ilaaleeyaan raad col oo sohdintooda soo galay. haddii ay wax arkaan ama ay wax dareensadaanna ka soo digaan. waa waardiye ama waa gaadh sida aynu hadda u naqaan. wuxuu kaloo garaadku guddoomiyey reerkii ay nimankaasi u tagaanba inuu siiyo neef ishkin ah oo ay qashaan, baryana ay ku noolaadaan. raggaas ayaa wiilwaal lagu daray, iyada oo markaana la sinaayo cid baa madaxa iyo cid baa manjo ah aan la odhan. ha yeeshee wiilwaal oo kale kama suuroobi karin ragba inuu la masoobo. dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ayuu malaha is yidhi, nimanka kula socda maxaa tolow ku fashaa
si ay u caddaato inaad adigu tahay laboontiga keliya ee aan la labayn. wuu fakeray, maanka iyo maskaxda ayuu ka shaqaysiiyey. alla ilahay hadda ayuu helay. galabtii dambe ayuu inta shiriyey ciidankii wuxuu u soo jeediyey xoolaha kolkii ay qashaan oo hilbaqaybsiga laysu soo hor fadhiisto in hor iyo abbaato uu isagu yeesho labada cad ee neefka ugu wanaagsan, inta kalena uu ka saami qaato. isla markiiba wada dareeme wax qaybsi ay ku dulman yihiin in guddoonkaasi xambaarsan yahay. cidise way ku dhici weyday inay dood ka celiso oo go'aanka wiilwaal kuma ayaa ka hor imaan kara oo naftiisa nacay. hawraarsan iyo guddoon ayaa dharaartaasna lagu kala dareeray. haddii ay sidaa ku socotay ayaa raggii adkaysan waayey. markaas bay inta shireen waxay tara ku goosteen, war wiilwaal labadan cad ee neef kasta u wanaagsan ma wada heli karo, dhaxalna uma uu heline aynu mid ka reebno. taladaas ayaa lagu heshiiyey. waxaase haddiiba la isku afgaran waayey oo cid dabarka u ridata la waayey ninkii isaga u sheegi lahaa in labadii cad mid laga reebay. wax fooda la iskula jiro oo dhulxariiq lagu foognaadaba ugu dambaystii ayay guddoonsadeen inay iska soo dhex saaraan 3 nin oo go'aankooda wiilwaal si wada jir ah u maqashiiya. ballan waxaa laga dhigtay in lagu yidhaahdo wiil waa labada cad iskuma heshid. hase ahaatee aan nin keliyihii odhanne weedha dhihiddeeda la qaybsado. waxaa lagu heshiiyey ninka koowaadi inuu yidhaahdo wiil waal, kan labaadna uu yidhaahdo labada cad, kan saddexaadna ugu dambaysta uu yidhaahdo iskuma heshid. fiidkii kolkii ay golihii ku soo dhammaadeen ayaa ninkii hore yidhi wiil waal oo degdeg u fadhiistay. markaas buu kii labaadna halhaleel u yidhi labada cad oo isna iska aamusay. kii saddexaad kolkii uu u hogbaday weedhii la isku ogaa inta ka dhiman inuu ku daro ayaa waxaa daymo kulul ku eegay wiilwaalo markaa warankiisii si wacan gacmaha ugu qaabsaday. daymadii qallafsanayd iyo umalkii foolkiisa ka muuqday ayaa ninkii cabsi ba'an ku riday. labada bowda ayaa jareeyey. garaacii wadnihiisa ayaa waxaa maqlay kuwii garabkiisa fadhiyey. nin kasta oo goobta joogay waxaa ka dhaadhacday goorta uu afka ciidda gashan doonaa inay isha baalkeeda tahay. halkii laga filaayey in hadalkii hore ee ahaa labada cad uu ku dhammaystiro iskuma heshid ayuu argagaxii badnaa ka yeersiiyey. wax aanu uurku doonayn afkusa ka xaday. markaas buu yidhi lug laguugu dar. kolka ma war baa yaal xan mooyee sow in loo bareeraa ma dhiman. maantaa kadib sow labadiisa cad iyo wixii uu doono oo uu ku darsadaa uma garoobin. sheeko iyo maahmaah lagu maadaysto soo ma ay noqon. dhegaystayaal, weli isaga oo aan la shuumin, isaga oo aan weli garaad loogu yeelin ayuu magaca wiilwaal dhab u soo shaac baxay. coofka ayuu kor u taagay. wuxuu islo ekaaday baarqab awr dhufaanan lagu sii dhex daayayoo inta miciyihii soofaystay qooq la golongolay. goob alla goobtii la isaga hor yimidba libin buu kala laabtay. colkii uu hoggaamiyeyba guul iyo gacmo buuxa ayuu la soo noqday. arlada ayuu habeela'aan u taxaashay. hiyigana wuxuu gashaday inuu geyigaba ka dhowro nin caqli iyo garasho kala mid ah amaba ugu soo dhowaan kara. ragannimo nin uu ku maleeyey iyo isagu xiire ayay ahaayeen. dhab wuxuu u rumaysnaa mahmaahdii ahayd qoori xero kuma heshiiso. magaciisa dheeraaday iyo haybaddaas wuxuu huwanaadaba 30 ayuu baarka ka jaray. xoog iyo garashaba wuu istaawiyey. nin walibana bannaanka ayuu ka maray. maalintii dambe isaga oo ciidankii soo jeedayaasha cidhifka degmada ugu maqadina oo guutooyin tolka soo weerara kaga gaashaaman ayaa ku dhambaal baas wadaay la soo joogsaday. hadday isbariidiyeen kadibna wuxuu ku yidhi xirsow, garaad faarax eebba ha u naxariisto, adiga iyo annagana haynaga samirsiiyo. waa geeridii aabbihiis waxa uu u sheegayaa, taasoo sida la garan karo uu aad uga naxay, aadna uga walbahaaray. waxayse naxdintu ugu darayd markii uu ninku u sheegay inaan aabbihiis bas u dhimane uu bir u dhintay oo la dilay. madaxa ayuu foorarayey. cabbaar kadibna wuxuu dhambaalwadihii ka toyday ciddii garaadka dishay iyo guud ahaan siday wax u dhaceen. shownin la odhan jiray khayre shirwac iyo garaad faarax ayaa muddaba eed lahaan jiray. wuxuu khayre garaadka ka taban jiray in badan oo uu tolka wax u qaybiyey inuu isaga ka eexday. cadaaladdarro gooni ugu dhacday ayaa maankii ka qaaday. kolkaas buu dhagar ku tashaday. dhiiggii garaadka ayaa u hilaacay. waxaaba iska hor caddaysay intuu dilo garaadnimadaba inuu isagu kala wareego. dabadeed iyada oo la degan yahay hoos haare meel la yidhaahdo oo geedkii shirka lagu dhan yahay garaad faaraxna fadhiyo ayuu khayra soo muuqday. waa la wada dhugtay isaga iyo kaalkiisii weynaa oo u dhexda haysto. wuu soo dhowaaday. nabad ma sheegteen iyo maxaa la isugu warramay isaga oo aan odhan ayuu shirkii gabay ku bilaabay. waxaa laga qabtay isagoo leh qadaar malab ah oo meel qotoma oo rag wada quuto
khayrow aduunii ka qatanow qaadan kari maayo oo isaga oo aan erey kale ku darin warankii uu gacanta midig ku haystay garaad faarax wadnaha kaga xabaalay isla markiiba isla goobtii waxaa isagana hooto halgaad ah saabka kala helay nin geedka fadhiyey oo ay garaadka xigaalo dhow ahaayeen. khayro shirwac kolkii ay naftu ka baxaysay halkii uu ka tawxiidsan lahaa wuxuu ku alaladay qalay oo ka qaday qalay oo ka qaday oo uu ula jeeday boqornimadii aan garaad faarax ka dilay ee aan islahaa adigu la soo meero adigu shafeecso rag kale ayay u gacan gashay anna waan ka qaday. laba xajuub oo aan kala fogayn ayaa galabnimadiiba khayre iyo garaad faarax inta lagu aasay looga soo kaco. dambaalwaduhu warkii ku saabsanaa geerida aabbihii ka sokow fariin kale ayuu wiilwaal u siday. odayadii tolka ayaa marba hadduu isagu dhaxalka garaadnimo leeyahay waxay u soo fareen halkii ay degmadu tiil inuu degdeg u yimaado si loo caleemo saaro. markaas bay wiilwaal tala ku caddaatay. laba arrimood ayaa isku mar la soo gudboonaaday. wuxuu og yahay dhowaanna uu ka digniin helay col mahiigaana oo reerahooda dhowaan ku soo duuli doona. karinta uu ragga ku haysto haddii uu banneeyana tolka ayuu colkaasi cidlo ka heli doonaa. nin kale oo uu caabigiisa ku halleeyaana uma uu muuqdo. midda kale waa gar oo xeerka ayaa ahaa haddii uu nin madaxay geeriyoodo midka mutaysiga u leh in si degdeg ah dhuubka boqornimo madaxa loogu xiro. ceeb aan dusha loo ridan karin ayay ahayd maalinna allaha ka dhigee tol aan lahayn madax kale hagta waxna u qaybisa. wuxuu isweydiiyey ma waxaa jirta cid aan adiga ahaynoo garaadnimada hawaysan karaysa? jawaabtu waa maya. ma cid baa kugula murmi karta? iyana jawaabteedu waa maya. cabbaar haddii uu naftiisa la tashanayay ayuu go'aan gaaray. wuxuu ku tashaday maantaa la joogo inuusan degmada waxba ku degdegine colka soo socda uu u toog hayo tolkana uu ka caabiyo. dabadeedna dhambaalwadihii oo jawaab ka sugaaya ayuu u yeeray. wuxuu u dhiibay go'iisii khayriga ahaa ee reeraha oo idili ay ku yiqiineen. markaas buu ku yidhi maradan qaadoo kolkii aad shirka geyso geedka dushiisa ha lagu fidiyo, dabadeedna iyada ha la caleema saaro oo caana ha lagu shubo, hana loo dabaaldego. aniga oo idinla jooga unbay la mid tahay sidaas ha la yeelo. waa la yeelay. waxayse noqotay xaajo ugubo aan cidi uga horrayn. wixii garaadada iyo ogaasyada soomaalidu ay tiro lahaayeenna keligiis uun u suuro gashay. haddii khayridii loo dabaaldegay kadib wiilwaalkii ina garaad faarax ahaa wuxuu noqday garaad xirsi garaad faarax. muxuu la soo bixi doonaa? muxuu noqon doonaa? anshigiisa wax ma iska beddeli doonaa? mase muquunintii ragga iyo dhaqankiisii hore ayuu ku wadi doonaa? su'aalahaasina waxay ka mid ahaayeen dadkii arrinta goobjoogga u ahaa kuwii ay maalintaa isweydiinayeen. inkastoo aysan qasab ahayn inay run wada noqdaan, haddana sheekooyinka iyo dhacdooyinka loo wariyey waxayna barayaan garaad wiilwaal inuu ahaa si walba nin isugu dayey inuu muujiyo rag inuu wax dheer yahay. taasi dhallinyaranimadii ayay ahayd. haddii la shuumay kadib oo uu garaad noqdayna waxba iskama beddelin. ma uu noqon oo keliya nin madaxa oo meel fadhiya garta iyo taladana loola yimaadee wuxuu kordhiyey feejignaantiisii hore iyo indhihii shakiga ee rag oo dhan uu ku eegi jiray. ninkii uu dareemo inuu qorshihiisa takaleel gelin karaba wuu u dardaar wariyey. wuxuuna ku beeray seexanwaa iyo cabsi joogta. labadii waran iyo gaashaankii uu mataanaha isaga dhigay ayuu sidiisii hore ugu maran yahay. tallaabadii xaggiisa loo soo qaaday iyo ereygii lagu yidhiba waxay ku abuureen feejignaan hor leh. wuxuu isu ilaaliyey sidii uu yahay nin ay dunida oo idili ku heshiisay inay nafta weysiiso. waa yaabe col dibadda laga soo diro oo isaga uun loo soo qaybiyey miyuu ka baqaayey? ma dilkii aabbihiis buu ku weyraxay? markaas bay ula ekaatay in boqortooyada lagu daba joogo oo laga yaabo inuu iyada eersado. mase wuxuu ogaa oo magliga iyo midida la raadinayay dadkii uu u talin jiray qaar ka mid ah oo uu ku gabood falay, sidaasna uu ugu godobaysnaa. soomaalida ayaa waxay murti kula baxday dhulka ayaa lagu yidhi dhulow ballaar badnilah. markaas buu ku jawaabay ballaarkaygu muxuu tari haddiiba nin godob qaba aan qarin waayey. feejignaantii wiilwaal markii la toydo ayay soo bixi karaysaa sida ay murtidaasi dhab u tahay. socod iyo nagaansho, hurdo iyo soo jeed, shir iyo kelinnimo, ceel iyo carshin, meel kasta ha joogo si kastana ha ku sugnaadee qalab dagaal baa gacanta ugu jira.
dhiila ayuu ku seexday aamin darro uu uunka eebba ka qabana wuu ku soo toosay alla malaha utuntii ku maqnaydi cuslayda waxay sheekooyinka wiilwaal ina barayaan inuu ahaa nin xeel iyo xirrid badan oo arrintii soo food saartaba furdaamin kara waxaa la yidhi dumarkii uu qabay oo 4 ahaa ayaa qaarkood qaarkii kale ku masayrayoo dagaal af iyo gacan balihi dhex maray waxay ku murmeen baa la yidhi heblaay adiga waa lagu nacayoo garaadku kuma rabo adigu waad iska joogtaa uune beri hore ayaa lagaa tashaday aniga ayaa la iga kaa jecel yahay gogashayda gogol kale weligiis ku doorsan maayo iyo hadallo kuwaas la mid ah raggii u dhowaa qaarkood ayaa damcay inay dumarka garaadka heshiisiiyaan isagii baase diiday wuxuu ku adkaystay isaga mooye inaan xaajadaa cid kale loo agmanayn afartoodii tu walba oo ka mid ah intuu gooni ula faqay ayuu ku yidhi caawa fiidkii kolkay tahay meel hebla imow aniga ayaa idinkala saaraya markuu aaskii dumay oo ay goobtii ku soo wada urureen ayuu ku yidhi afartiinuba sii jeesta oo isgarab joogsada tii aan idin jeclahay dhabarka ayaan ka taabanayaa ee ha iska tagto iyada oo aan dib ii soo eegin afartoodiiba dhabarka ayuu ka taabtay dabadeedna sida la sheegay mid waliba iyada oo faraxsan ayay horteeda u dhaqaaqday waxaase hadhay inaan isweydiinno taasi ma sheeko dhab ah oo dhacdayba mase bulsho ragga oo qura qiimaysa waatay ahayde waa sheeko loo maleegay in garashada dumarka lagu liido tan dambe u male waxaa kaloo la sheegay waayihiisana laga garan karaa garaad wiilwaal inuu ahaa nin murtidhaari ah oo aan hadal seegin nin jeclaa rag iyo dumarba inuu dadka xujeeyo si uu ugu daadego bal garashada qofku inta ay qodan tahay ruuxa uu xujaynayaa haddii uu rag yahay asi uu si wanaagsan xujooyinkiisa kaga jawaabo dareen baa ka geli jiray wuxuu u arki jiray halis ay tahay inuu iska horwareejiyo markaas buu ku dadaali jiray isaga iyo ninkaasi inaanay carro bartira ku wada noolaan haddiise ruuxaasi uu qof dumara yahay wuu guursan jiray ama nin xigaadhadiisa ka mid ah ayuu guursigeeda kula talin jiray welibana u dhisi jiray marka ay waliyayaashu doonayaan inay muujiyaan sidii uu wiilwaal u ahaa murtidhuux qof walba tiraabkiisa aad ugu fiirsada waxay soo qaataan sheekooyin isaga loo saariyo oo tan soo socotaa ay ka mid tahay kuna saabsan sidii uu ku guursaday qaar ka mid ah dumarkii uu qabay waxaa la yidhi isaga oo xujo uga dan leh ayuu maalin maalmaha ka mida meel degmada dhexdeeda ah awr ku qalay dabadeedna wuxuu u yeeray degmadii uu u talin jiray raggii joogay qaarkood markaas buu ku yidhi ninkiin walba waxaan ka rabaa hilbaha ratigaas intuu isdul taago inuu iga keeno cadka xubnihiisa ka midka ah ee ragga israaciya sidii uu nimbe ula soo boodayay xubin aan ahayn tii uu garaadku maskaxda ku hayay ayuu markii dambe oday ragga ku jiray hungurigii awrka u keenay wiilwaal baa kolkaa la yaabay oo inta ka shakiyey duqiina hoos u eegay ku yidhi war adigu ma aad garanne yaa kuu sheegay hadduu yidhaahdo aniga ayaa gartay wuxuu malaha ka baqay inuu ku xujoobo oo uu dhegta dhiigga u daro sidaas darteedna wuxuu ugu jawaabay garaadow inan aan dhalay baa ii sheegtay wiilwaal baa kolkaa gabadhii u bogay wuxuu ku maleeyey inay caqli doora leedahay kolkaas buu toyday bal inay guurgal tahay iyo in kale waxaa loo sheegay inay guurgal tahay hase yeeshee ay nin u doonan tahay loona ballansan yahay in dayrta soo aadan loo dhiso isla markiiba wuxuu guddoomiyey inay naag garaad noqoto ninkii ay u doonanaydna 10 sac ayuu ku aamusiyey kaasoo isna isu qaatay inuu ayaan badan yahay sidaas ayuu wiilwaal kula aqal galay gabadhii tibira la odhan jiray kii laga meershayna wuxuu naftiisa ku maaweeliyey labadan meedisoo gabayga ah wuxuu yidhi garaadkii hadduu timiro helay waa ku taamahayey aniguna haddaan 10 sac helay waa la ii taliyey waa samray waase samir taagwaa maalin kale isaga oo awr ka baxsatay baadigoobkeeda ku jira oo raq iyo ruux toona wax u baytiya uu leeyahay ayuu goor ay barqadii tahay wuxuu ku soo baxay ari fara badanoo dhowaan ruuman uu 7 helay ku kala baahay wuxuu abbaaray inantii la joogtay oo bartamaha ariga taagan geedina samaysanaysa faraskii uu ku joogay intuu soo ag joojiyey ayuu nabdaadiyey dabadeedna ku yidhi gabarey waxba awr baadi ah ma aragtay waxay tidhi indha kama qaadin ha yeeshee balaan maleeye awrta mid dabali imu ku jiray wuxuu yidhi haa markaas bay tidhi mid illi isna ma ku jiray wuxuu ku jawaabay haa markaas bay ku tidhi haddaba raadkoodii uun baan arkay ee ruuxoodii ma arage dhinacaas iyo qorrax dhaca bal ka baadi goob
sidii ay kula talisay ayuu yeelay galabgaabkiina halkii ay farta ugu fiiqday ayuu ugu tegey iyaga oo si wacan geedaha luqmaha ugula jira hareerigii toomahana ka hamuun beelay karkii awrtu markuu ka dhacay ayaa wiilwaal hadalkii gabadhu ku soo duxay habeenkii meel uu ku bariyeyba barqadii uu la kulmay teedihan ayuu isla meeshii ugu yimid iyada oo aad moodo ariga iyo iyaduba ilaa shalay inaysan docna uga dhaqaaqin markii la isnibdaadiyey kadib ayuu weydiiyey gabadhey awrka dabadana sidee baad ku garatay markaas bay tidhi awrtu kolka ay saaloonayso saynta ayay saalada ku kala firdhisaa kaaguse meel keliya ayuu tuuminayey oo sidaas baan ku gartay inay ka maqan tahay sayntii uu wax ku seeraarin lahaa wuu ku celiyey oo wuxuu haddana weydiiyey waa tahaye midka isha la'na sidee baad ku garatay waxay tidhi geedkii uu ku soo hagaagaba dhinac kaliya ayuu ka daaqaayey ee sida awrta kale dhinaca kale uma gudbayn sidaas baana ku gartay inuu waa hore labada indhood mid beelay subaxdaas buu wiilwaal inantaana u qira inay tahay qof qorshe iyo quruud leh isla goobtiina wuxuu ku go'aamiyey carruurtiisa mooye inaysan nin kale wiil iyo gabar midna u xambaarin sidaas ayuu ku guursaday dahabaduula oo gadaalkii noqotay dumarkii uu guursaday tii ugu caansanayd uguna magaca dheerayd si kastaba ha ahaatee haddii aynu doono inaan ogaano jawaabaha dadka siduu wiilwaal garashadooda ugu dhudhumin jiray ka maarmi kari mayno inaynu xusuusanno sheekadii iyo murtidii ka hadhay inankii uu abtiga u ahaa waxaa la yidhi inan ay walaashii dhashay markiisii horena uu isagu koriyey ayaa kolkii uu hana qaaday reer aabbihii u wareegay beri dambe ayaa wiilwaal waxaa loo soo tabiyey dadka uu u taliyay qaarkood inay inankii xanteen kuna sheegeen liita aan rag wax la qaybsan karin isagana aan ku bannaanayn hadalkii ayuu liqi kari waayey waxaa ka dhaadhici weyday ruux ay wuxuun isu galeen sida uu dhaliilba u yeelan karo dabadeedna inankii ayuu fariin u diray isaga oo raggii doonayna kula ballamay maalin hebla geedka shirka inay ku soo beegaan wuxuu doonayaa meel raggii xaman jiray ay ku dhan yihiin inuu inanka su'aalo ku weydiiyo isaga oo aad moodo inuu hubo marba haddii uu isagu abti u yahay inuusan ceebayn doonin maantii dambe kolkii uu shirkii isa soo taagay ayuu wiilwaal inankii kula booday oo 3 su'aalood mar qura isu daba dhigay wuxuu ku yidhi maandhow xoola maxaad ka timi maandhow xaraga maxaad ka timi maandhow xaasna maxaad ka timi inankiina isaga oo aan keyrkeyrin in badanna ku maqnaan ayuu ku jawaabay abti xoola waxaan ka imid geel aan tiro badnayn yarayna xaragana waxaan ka imid geenyadii xamaro ahayd xaasna xayn ari ah ayaan ka imid waxay noqotay gargayrtii goobta fadhiday jawaab ay madaxa u wada ruxeen si gaar ahna garaadkii u farax gelisay kolka maxan dambaa jirta wiil iyo waayeelba shirka intii fadhiday soo wax yaqaan inuu yahay looma wada qirin soo isla goobtiina kama caddaan wiilwaal oo abtigiisa inuu ku bannaan yahayo dhab ahaanna ay walaashii dhashay mararka qaarkood sheekooyinka ay wiilwaal ka wariyaan waxay u egyihiin sheeko xariiro in la rumaysto ay adag tahay si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah dagaankii uu jeer ka talin jiray odayadii ku barbaaray oo aanu la kulannay ayaa waxay ku warrami jireen inuu jiray xeer uu samaystay oo madaxdii soomaalida kale uu kaga duwanaa waxay odhan jireen garaadku kolkuu sadcaalo meesha uu kolba ku hoyan doono iyo cidda uu martiyi doonaba waa la sii ogaan jiray saa dambe oo kale reerka uu ku beegan yahay ayaa soodadiisa qalqaalo u geli jiray sida la leeyahayna waxay martisoorka ugu dari jireen haweenay laga dhintay ama la furay oo carmal ah taasoo si degdeg ah loogu guurin jiray galabnimada horeba inta loo meheriyo ayaa habeenkaa loo hoyn jiray waa berigiina intuu furo ayuu ka jeedlan jiray waa arrin dhab ahaanshaheeda aan cid xaqiijin karta la arag waxaase jirta sheeko ay soomaalidu aad u taqaan ayna u daliishadaan in dhaqankaas la yaab kale ay wax ka jireen waxaa la yidhi wiilwaal baa maalin maalmaha ka mida u yeeray dahabaduula haweenaydii siduu ku guursaday aynu barnaamijkii toddobaadkii hore ku soo qaadnay ee uu caqligeeda badan ugu xishay wuxuu ku yidhi muddo ayaan maqnaanayaa waxaan ku tashanahay sodcaal dheer kolkii haddaba aan soo noqdo aan kuugu imaado adiga oo haysta wiil aad dhashay oo aniga ii eg iyo genyadayda oo faraskayga u eg iyaduna dhashay oo haysata haddii kale luquntu kuguma ooli doonto waa xujo iyo yaab
haweenay uu ninkeedii sodcaal ku maqan yahay sidee bay ku uuraysanoo ay wiilal u umuli way umuli kartaayoo gogoldhaafba waa lagu keenaaye sidee buu wiilka ay dhashaa uga ekaan karaa ninkeedii muddada ka maqnaa dhanka kale faraskiisii haddii loo xakameeyey oo inta wejiga shaal loogu guray loo shaqlay isaguna uu ku sodcaalay sidee bay ku suuroobi kartaa geenyadii hebla ahayd ee uu reerka kaga tegay intay rinto in neef faraskaa u eg laga soo jiido tooyinka garaadka sidii loo furi lahaa iyo wixii laga yeeli lahaa in lagu dhaqaaqa ha joogtee in dooda laga celiyaa cidna uma bannaanayn aragdiisana allaha ka dhigee ruuxu naftiisa rajo ka qabaa inuu maya ku yidhaahdo kumuu dhiiran karin dahaba duula walwal baa ku dhammaaday sidii ay xujadaa ku furdaamin lahayd ayay habeenna u soo jeeday waxay talooyin dhowra rogrogto oo kala doorataba ugu dambaystii ayay inta mid ku xasishay istiri alla ilaahay waad haysaa oo inta isu bogtay dhoolaha ka qosashay baryahaas halkii wiilwaal lagu malaynayay ayay tooyatay reerkii geediga ahaa iyo kii nagaaba way weydiisay ninkii socotada ahaa ee ay aragtayba way haybisay waxaa loogu warramay reer hebel buu habeen saddexaad la hoyday mar kale waxaa loo sheegay nin hebel baa habeenkii xigay degme heble ugu loogaayey mar kalena waxaa lagu yidhi maalin hebla ayaa fagaarihii weynaa ee meel hebla loogu dabaaldegi doonaa 2 cisho kadib reeraha uu ku hoyan doona markay hubsatay ayay waaberigii mariimatay dharkeeda kii ugu bilicda roonaa waddadana cagta saartay iyada oo ku joogta geeyadii uu u tilmaami jiray oo beedaran cilcilowga fiidkii goor ay tahayoo aan habeen iyo dharaar loo kala garan ayay si dhuumasho u eg waxay ku soo gashay galabtadii hore reerihii oo wiilwaal caraabada ku yimid waxay gees ula baxday duqii ugu weynaa odayadii sooriya qalqaalinta garaadka ku hawlanaa haddiiba intay isu sheegtay ayay ku tiri nin yahow heble hebel ayaan ahay ooridii garaadka ayaan ahay qof arrin culusi wareerisay baan ahay dahaba duula oo xujaysan baan ahay waxaan kaa duraamanayaa qoolka qoorta iiga maran inaad ila furfurtid ruuxa dumarka ahi waxa ay u sheegi isaga oo ka yaaban ayuu odaygiina yidhi maxaa ku helay qoolka kugu maranse muxuu yahay markaas bay u sheegtay xujada furitaankeeda laga sugaayo ee iyada iyo ninkeeda dhex martay afkaraqaad baa duqi ka soo haray meel uu wax ka bilaabo ayuu aqoon waayey wuxuu aamusnaadaba markii dambe ayuu ku yidhi maandhay si aan wax kuula farsameeyo iyo irid laga baxo midna anigu garan maayo igamana sugtid markaas bay tidhi irid aan ka baxo in aad itustid kuguma imaan kaalmo un baan kaa doonaya taladaydu way i dhooban tahay hadhow fiidkii haweenaydii uu caawa la aqalgeli lahaa halkii aad uga geyn lahaydeen aniga ii geeya si aan ula hoydo waxaan ku mala weynahay inaan qaadi doono oo astaamihii uurka aanada u ahaa ayaan isku ogahay aniga taaha la ii fuliyo midda kale geenyadu way beedaran tahay oo soo celin maysee iyadana isla caawa faraska garaadka ha loo hayo hawlaarsan iyo guddoon ayuu odagiina yidhi isaga oo la ashqaraarsan sida ay taladu u habboon tahay haweenna u quurila dahabo oo kale inay ku jiri karto sooriyadii kolkay dhammaatay dabriina loo sheekeeyey ayaa waxaa la soo gaaray qoftii la bari lahayd goobtii wiilwaal loo keeni lahaa kolkaas baa waxaa halhaleel u soo booday oo hadalkii boobay fiidkii dahaba duule odagii ay wax isku ogaayeen wuxuu yidhi bilic hadday dumar lahaayeen cawo kale yeelkeeda garaadow caawa waad haysaa kashaadu sidaa ha ku qabowdo khayrayn buu isna la muusooday habeenkaana dhaxantii gelin hore iyo gabadanadii aroornimoba waxaa gabaad uga noqotay dahabo oo inta loo soo hadoodilay aroos cusub looga soo dhigay si haddaba wadajoogga habeenkaas aanu garaadku berri ka maalin ugu dafirin oo haddii ilmo ku beermaan aanu ugu malayn fal gogol dhaaf keenay maxay talow yeeshaa durba xeel bay heshay tudhii horeba markii uu gacantogaaleeyey ayay ka durugtay way ka sii jeensatay intay u jir xumaysay bay haasaawihiina ka xiratay markii uu doocdoociyey oo hadba uu dhinac ka maray oo waa ku sidayso inaan garaadkii ahay ma ogid uu dhowr jeer ugu celceliyey ayay tidhi fargashiga aad qabto iska soo bixi oo isii haddii kale dabadeedna isaga oo aan is ogeyn ayuu inta degdeg isaga soo saaray ku hubsaday fardhaxadeeda faryarada iyo faadumada u dhaxaysa isla markaa iyadu ay garaadka gugasha la jiifto odaygiibaa sidii lagu ballamay wuxuu meel isugu geeyey faraskii iyo geenyadii ay iyagana xujadu ka aroosnayd intii aan waagii dhab u baryin iyada oo weli uu cirku isku jiro ayay dahabana gugashii garaadka u soo bannaysay oo intay geenyadii kooraysatay u jarmaaday halkii ay reerkeedii ku ogeyd kabil hadduu maqnaa ayuu galabtii dambe isaga oo faraskiisii weyrax ku jooga
soo dhigtay kagana degay daahiye weynihii dahabo ardaagiisa sheedda aqalka ayuu milicsaday mase waxaa ku mayracanaya geeyadii iyo darmaan ay dhashay oo aan laga aqoon faraska uu hadda meesha kaga degay wuu yaabay waxaase uga yaab badnaa markii ay dahabo aqalka ka soo baxday iyada oo naaska u dhigaysa wiil si wacan u kobcayoo aan isaga laga aqoon markaas buu ismadax maray indhihii baa haddiiba guduutay cara iyo ceeb wada socdaa ku kulmay wuxuu u maleeyey dahaba inay simbireeraxatayoo intuu maqnaa ay magaciisa meel uga dhacday isaga oo aan waxba weydiin ayuu seeftiisii afka badnayd galka kala soo baxay oo xaggeedii u soo degdegay wuxuu maagan yahay iyada iyo wiilkaba inay caawa waraabayaashu ka hamuun beelaan markaas buu isku daray isaga oo seeftii qaabsaday iyo su'aal gaaban oo ahayd ilmaha aad sideeto xaggee baad ka keentay intay dhabarka ka soo wareejisay ayay ugu jawaabtay horta waa wiil waana ina garaad xirsi foolkiisa ayay ka garatay inuusan rumaysan dabadeedna si aanay seeftu luqunteeda ugu dhicin ayay haddiiba waxay farteeda ka soo saartay fargashigii ay ka qaadan jirtay hortiisa intay ku tuurtay ayay tidhi garaadow kaatunkaa ma aqoonaysaa isna markii uu eegaba wuu aqooday sidii ay sheekadu u dhacday ayuu dib u xusuustay halkii ayuu ku qaboobay oo habeenkiina intuu wanweyn ku allabariyey wiilkii ugu waqlalay sow sheeko la yaab lama noqon malahayga sheekooyinka la yaab kale ee wiilwaa loo saariyo kuwooda ugu caansan waxaa ka mid ah tan ay soomaalidu u taqaan dibiga naasa adag waa sheeko ay maahmaahi ka hadhay isla markaana inoo iftiimin karaysa siduu mar walba badbaadada naftiisa isha ugu hayn jiray iyo guud ahaan gacantii birta ahayd ee uu ku maamuli jiray dadkii uu u tali jiray waxaa la yidhi wiilwaal waxaa la walaal ahayd gabar yar oo ay isku bah ahaayeen xigaalada kale oo idilna uu ka soo dhowaysan jiray mar walba isaga ayay la socon jirtay isaga ayay xoolaha la dhaqaalayn jirtay gaar ahaan intii aanu dhuubka boqortooyo hanan ee garaannimada aan loogu dhawaaqin haddii uu reeraha dhex joogo iyo haddii uu bulsho lo-aadda ku maqan yahayba isaga ayay gacanyaro u ahaydoo isaga ayaa agihiisa lagu arki jiray waxay arrini sidaas ahaataba waagii dambe ayay gabadhii kortay tuur bay muddoba lahayde maalintii dambe ayay tidcatayoo ka wiratay waxay noqotay gashaanti guurgal ah oo sugaysa ninkii ay timahaas u furfuri lahayd waxay soo baxday inan qurux dumar lagu wada kuunyey iyo bocor aan indhaha laga qaadi karin xilligii la xodxodan lahaa oo guurkeeda ay barbaartu u tartami lahayd ayay gaadhay sida gabdhaha la ayniga ee ay isku filka yihiin ayay waxay u bislaatay ragga gayaankeeda ah maalintii ay ka dhex dooran lahayd kii ay ooridiisa noqon lahayd dabadeedna ay carruurta isu dhali lahaayeen hase ahaatee taasi siday filaysay uma ay dhicin gabdhaha waalkeeda ah halka habeen iyo dharaarba ay barbaartu ag dhooban tahay iyada midkoodna kuma soo hambaaso iyada cidina xodxodo uguma timaado waxaana jiray sabab maangal ah oo iyada iyo dhallinyaradii u soo hawoon lahayd kala fogaysay oo yaa beer iyo wadna leh oo ku dhici karay in wiilwaal walaashii uu ku soo dhiirado yaa isaga oo xodxodadoona inta golihiisa isa soo taaga gabadha soo hawaysan karay nin waliba warmaha wiilwaal intuu ka baqay ayuu walaashiisna ka maarmay kana fogaaday wuxuu barbaar waliba door biday inuu xidid kala yeesho oo reero kale uu xila ka doonto ina ragsa ma quustee wiil baa isa soo kilkilay wiil baa soo badheeray wiil baa ku tashaday rag oo idili gabadhaa uu ka maagay inuu isagu isku biimeeyo mararka ay keligee tahay intuu ilbaadsado ayuu dhagaha ugu shubaa sheekooyin ay dhab u rabto oo isaga mooyee aan weligeed cid kale kula soo dhiiran lo'oley bay ahaayeene inta badan lo'da dhexdeeda ayuu kula kulmaa kadib markuu hubsado inaan walaalkeed carriga ka dhoweyn waxay haasaawaanba ugu dambaystii waxay labadoodii ku guulaysteen mid waliba inuu midka kale is-ogolaysiiyo la isna aamino ha yeeshee waxay mugdi iyo dhuumasho ku kulmaanba waxaa la gaaray wixii ay muddaba isu sheegayeen markii ay ka dhabayn lahaayeen waxaa la gaaray markii ay yeelan lahaayeen aqal ay nin iyo ooridii ka yihiinoo ay qoys ku noqdaan waxaase ka murugtay riyadaas macaanka badan tabtii ay ku rumayn lahaayeen mar waxay ku tashadeen barbaarku inuu wiilwaal toos ugu tago oo af muggii uu gabadha ku weydiisto mar labaadna waxay isla heleen wiilwaal inay u daldaayaan oo degaankoodaba ka cararaan dabadeedna ay dhul shisheeye isku guursadaan sidii ay midba mar u faranqaynayeen ayay ugu dambaystii waxay istuseen in labadaa talaba ay maankooda ka saaraan ayna iska iloobaan waxaa u caddaatay inaan midina suuragal u noqon karayn maxaa yeelay waa mare waxaa hubaal ah
inanka guurdoonka ah inaan naftu in badan ku sii jirayn hadduu geesinimo iska dayo oo inta wiilwaal hor fadhiisto uu walaashii ka doono wuxuu u qaadan lahaa inanku inuu isaga isla soo simaayo markaasna kurka ayuu hor dhigi lahaa dhinaca kale wiilka iyo gabadhuba waxay garan waayeen geyigan uu ninku baarqabka ka yahay dhul aan ahayn oo intay isku guursadaan ay kaga nabadgeli karaan kuna dhaqmi karaan si alla si ay wax yeelaan ayaa laga madoobeeyey ilaa haddana sheekadoodu waa qarsoodi oo labadooda unbay ku eg tahay cid kale oo la ogi ma jirto cid kale oo ay arrimahooda kala tashadaanna lama arko maxaa yeelay waxay ka baqayeen haddii la ogaado inuu wiilwaal maqlo dabadeedna uu qorshahooda dhexda ka kala jabiyo haddii uusan dilinba ugu dambaystii waxaa tala keentay gabadhii oo jacayl darani uu ka saydcaleeyey dhowr cisho oo isku xigta ayay barbaarkii waxay ka dhaadhicinaysay walaalkeed wiilwaal oo ifka saaran inaan guurkoodu sina meel mar u noqon karin markaas buu ku yidhi ma waxaad u jeedaa inaynu iska sugno inta uu ka dhimanayo markaabay ku jawaabtay maya dhimashadiisa ma sugi karayno inankiibaa inta su'aal kale ku celiyey ku yidhi maxaynu haddaba yeellaa dabadeedna iyada oo aan la gaban ayay ku tiri waa in la dilaa oo weliba aad adigu gacantaada ku dishaa mar keliya ayuu gabadhii ku dhaygay oo isaga oo aan isogeyn waxa uu la soo booday dil wiilwaal dilbaa yaa beer iyo wadnale oo ku dhaca yaa sadagnaan ka heli kara markaas bay tidhi hoy nin baa alla kaa dhigay walaalkay goorta uu degan yahay haddii aan kuu sheego soo ma dili karaysid wuxuu ku jawaabay oo heedhe miyaa lagu maray yaaba arkay wiilwaal oo dagan miyaad imalgaysaa waxay tidhi aniga ayaa arkay oo aqaan goorta uu degan yahay adigu nin ma tahay kolkaas buu isaga oo aan ku qanacsanayn talada ay soo jeedinayso waxa uu weydiiyey oo waa goorma goorta uu degan yahay waxay ku jawaabtay waa fiidkii xilliga ay lo'dayadu golaha u soo hoyato ee si uu u liso uu weelka u qaato badanaa isaga oo hubkiisa dagaalka gacanta bidix ku wada haysta ayuu lo'dana midda midige ku lisaa waxay ku soo gabagabaysay arrintuusa bar walba sidaas ma aha waxaa lo'dayada ku jira sactood ah xoog badan daddil ah si loo maaraana ay dhib tahay sacaas oo lagu magacaabo naasa adag wuxuu ku irmaan yahay oo lagu maaraa dibi uu dhalay oo isna itaal biiran ah sida hooyadiisna aan wax qaban karaayi jirin haddaba marka uu sacaa lisaayo oo keliya ayuu hubka oo dhan meel iska dhigaa waana marka keliya ee uu degan yahay adiguna aad dili karaysid inankiibaa afkala qaad ka soo haray dhiiranaanta gabadha ayuu la ashqaraaray isaga oo cabsiyey buuxisay si iyada aad u raba ayuu su'aal ku celiyey oo wuxuu ku yidhi oo heedhe sidee baan ku garanayaa marka uu naasa adag lisaayo waxay ugu jawaabtay fiidkii markay noqoto oo lo'dayadu ay reerka u soo hoyato ayaad soo fadhiisan meel u dhaxaysa golaha lo'da iyo aqallada adiga oo hubkaagu kugu dhan yahay dabadeedna marka uu walaalkay lisida saca u tafaxayto ayaan aniguna waxaan kuugu baaqi doonaa cod dheer oo aan kugu ogeysiinayo goortu inay tahay goortii habboonayd ee wiilwaal oo dagan aad makali lahayd kadibna aynu sidaa qoys ku noqon lahayn qorshaha halista ah inuu yeelo ayay si isdaba jooga ugu guubaabisay habeen iyo dhalaarba goortii ay is arkaanba way ugu celisay waxay u qurxisay dilka walaalkeed ilaa ay kolkii dambe yeelsiisay habeenkii lagu ballamay ayaa soo galayoo dhulka eebbe mugdigiisii ku daboolay inankii oo u eg wax nafta ka samirsan si guubaabadii gabadhu ay maantirtay ayaa golihii wiilwaal u soo xadxaytay wuxuu ku raran yahay wixii hub uu heli karaayey waran gaashaan hooto seef iyo toorey 3 gees ah geed xagar ah oo aan ka fogeyn edagta weynaha ayuu ku soo gabaday wuxuu doonayaa waxa golaha ka dhici doona oo dhan inuu si wacan u maqlo in aan sharqan yarina dhaafin ayuu rabaa si aanu u seegin baaqa uu u dhogtaagayo ee xagga gabadha uu ka sugayo wuu sawalwalayaa tallaabada ba'an ee uu kollow ku dhaqaaqi doono ayuu dhab uga walaacsan yahay wuxuu og yahay inay tahay tallaabo isaga ka hor aan cidina ku riyoon kuna dhiiran waxaa ku soo dhacday maahmaah uu odayada ka maqli jiray oo ahayd awr wado iyo nimay naagi wadaa midna kaama weecdo maantase murtidaas dhug iyo dhagatoona uma laha waxaa xusuustiisa ku soo dhacday tii kale ee ahayd hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama leh iyaduna caawa hakin mayso suu meel uu ka noqdo ma joogee dhabanka ayuu dhulka ku hayaa durba waxa uu dareemayaa dhaqdhaqaaq hor leh oo xagga reerka ka soo gaaraya xidigtii waxala xirta ayaa sii wislahoo cirka ka sii hoobanaysa wisinkii ishkinka la maali lahaa ayaa la joogaa waxaa u muuqda dab oogan oo lo'da iyo carruurta qaarkeed ay kulaalayaan ololka dabkaa
ayaa kolkol wuxuu tusayaa dumar gacnaha ku wata agabkii lo'da lagu maali lahaa sida dabaro haruuba culan kuwa la deebiyey iyo caanaha habeenkaa la liso dhiilihii lagu dhigi lahaa weylihii iyo sicihii dhalay ee ay ku irmaanaayeen ayaa bilaabay inay isu coyaan markii la gaaray fiid walba xilligii la isu soo dayn jiray lo'da inteedii badnayd hadda waa la maalay wuxuu inanku u tooghayaa naftiisa goortii uu biimayn lahaa oo soo dhowaatay baaqii gabadha oo ilmilicsi kasta dhegihiisa ku soo dhici kara ayuu sugayaa wuxuu goostay xagarkii uu ku gabanayay inuu ka yara baxo oo xagga reerka inta uga durko uu xerada lo'da fooda ku qabto sidaas markii uu yeelayna waxaa u suura gashay inuu maqlo hadal kasta oo dhex maraya wiilwaal oo kolba sac lisaayo iyo walaashii oo weylaha hadba mid u soo daynaysa cabbaar wuxuu halkiisaa ku nabnaadaba waxaa la soo gaaray markii la lisi lahaa sacii dhibta badnaa ee lo'da loogu dambaysiin jiray sacii naasa'ada ku magacownaa inankii ayaa wuxuu maqlay wiilwaal oo gabadhii ku leh heblaay dibiga naasa adag soo daah markaas bay si ay ugu baaqdo waxay cod dheer ku tiri dibiga naasa adag baa hadalkaa dambe ee walaashii ka soo yeeray ayaa wiilwaal dareen geliyey maxaa yeelay ma ahayn hadal uu uga bartay isla markiibana dabarkii iyo agabkii kale ee uu saca ku lisi lahaa ayuu gees isaga tuuray halhaleel ayuu dhulka uga haabhaabtay qalabkiisii dagaalka wuxuuna ku hubsaday labadiisa gacmood dabadeedna isaga oo aan garanayn halka looga iman doono ayaa waxaa afkiisa ka soo baxday su'aal waayadii dambe maahmaah noqotay oo ahayd naa maxaa dibiga naasa adag iyo weedha kulmiyey hortiisa iyo hadeerihiisa ayuu indhaha aad ula raacay mase waxaa ku soo garan inankii oo bidixda iyo bidigtaba labadiisii waran ku sita seefi ay u jeeda qaaran tahay abley af badanina ay u galaysan tahay haddiiba wiilwaal wuu fakeray wuxuu hubsaday ninka soo maqiiqanay inuu isaga maagan yahay markaas buu degdeg u baneeyey halkii uu taagnaa oo dhanka bidixa u booday inankii oo xawligii oradkiisa yarayn waayey ayaa gadaal u dhaafay isagiina intuu sidii libaax dhaawacan uga daba booday ayuu hoota dhagaleeya ku halgaaday oo garabka bidix kaga joojiyey inankii oo nabarkii la alaladaya hootadiina ay ku taagan tahay ayaa dib u soo jeestay wuxuu maagay inuu is-axmo oo ninka dilay uu waran tuuriyo ah caloosha kala helo ha yeeshee waxay noqotay toog baaqatay wuxuu iska waayey xooggii uu waranka ku seelaalin lahaa ee uu wiilwaal ku gaadhsiin lahaa dabadeedna kii oo xaraaruga oo naf xuni ay ku sii cirriq leedahay ayuu inta dul tegey ruux togay seeftiisii oo hilaacaysa ayuu kurka kaga jaray halkaas buu ku ahaaday su-aasha kolkan meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay wiilkii aragnaye gabadhii iyadu maxay talow ku dambaysay walaalkeed wiilwaalse maxay habeenkaa ka mudatay oo yaa yaqaan tan iyo markuu garaadsaday waxaa wiilwaal ka go'nayd inay caddaato rag oo idil inuu isagu ugu awood roon yahay welibana ugu garasho badan yahay sidaas awgeed wuxuu filan jiray cirka iyo dhulka meel dhexdooda ah in laga wada eego xilliyadii hore ee ina garaad faarax loo yiqiin iyo markii inta la caleema saaray uu garaad xirsi noqday kadib muddadii uu noolaa oo dhan sheekooyinkii dhulka soomaalida la isaga warin jiray waxay u badnaayeen isaga iyo wacdarihiisa isaga iyo xujooyinkiisa isaga iyo feejignaantiisa wuxuu ahaa nin si aada u rumaysan hubka wax la isaga rabo oo qurihi inuu yahay waxa awoodda lagu xagsan karo ee dadweynaha uu u taliyo uu ruuxa madaxda ahi tiisa ku yeelsiin karo wuxuu ahaa badbaadada noloshiisa nin aan cidna ku hadlayn oo dadka wixii gacal u ah iyo wixii aan u ahaynba isku si isaga ilaaliya qalabkiisa dagaalka ayuu dhab u aaminsanaa naftiisa iyo boqortooyadiisa labadabana isaga ayuu gaashaan uga dhigtay arrintaana waxaa loo heli karaa tusaalayaal fara badan madaxdigase waxaa ugu darayd wiilwaal iyo wadaaddo dhacdadii la baxday taasoo aynu ka garan karayno meeshii fogayd ee qalabka dagaalku uu kaga yeelay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid a ayuu aqaladiisa wuxuu ku marti sooray wadaaddo dhowr iyo 10 ah oo ka tirsanaa dadkii uu u talin jiray iyo qaar degmada dool ku yimid labadaba aqoonta diinta oo ay ka sinaayeen ka sokow waxaa ku jiray qaar xaaje hebel loogu yeero oo taa awgeedna si weyn ay bulshadu ugu maamuusi jirtay si wanaagsan iyo sidii nin garaada lagu yiqiin ayuu u sooray laba intuu u fariisiyey ayuu ka dhargiyey hilbihii wanka oo qaarba si gooni ah loogu wanaajiyey araggiisa oo qura bariis ay gaajadu ku ba'do oo geed adari laga buuxiyeyna wuu hordhigay dhay suusac iyo karuur caanihii geelana wuu ka durduuray oo martida cad iyo caano oo keliya laguma sooree midhax iyo jalbeebna waa loogu iidaamaaye intuu weji furan la dhex fadhiistay ayuu u deexday ilaa ay cunnadii ku degtay oo intay hurda qabatay ay wada lulmoodeen ha yeeshee inay duceeyaan oo keliyihii markay u hadhay markay u faarumaysteen inay reerka ka ambabaxaan
kuwalibana uu qoyskiisii u carraabo ayay wiilwaal wax ku soo kordheen. waxbaa ku soo dhacay. hadal kale oo dhan intuu sikadiisa u joojiyey ayuu wadaadadii dabin ku dhaygaga. wuxuu arkay samaley warmale inay wada yihiinoo aan lagu arag mid keliya oo haysta waran ama seef ama ableytoona. markaas buu intuu ka yaabay kula soo booday su'aal aanay filanayn weligoodna aan cid kala haybin. wuxuu ku yidhi, oo wadaadow, wax la isweydiiyaa ma xumee, horta qalabkiinnii dagaalku mee? haddiise la idinsoo maago yaa dadka idinka celinaya? midkood baa kolkaa af carbeed ugu jawaabay oo ku yidhi, naxnu mutawakkiluun cala allah, oo uu ula jeeday annagu eebbe ayaannu tala saaranaayoo cidna kama baqno. dabadeedna iyagii oo aan weli halkoodii ka kicin ayuu wiilwaal aqalkii dibadda uga baxay. in yar hadduu ka maqnaa oo uu ku soo noqdayna waxay ka maqleen wax ay la wareereen. wuxuu ku yidhi, awyaalow, intii aan idinka maqnaa waxaan sabada la taagnaa xidiga sheeg waxyaqaan ah, aniguna aan ku kalsoonahay. wuxuu ii sheegay in naftaydu ay halis ku jirto oo dhibaato aan ka soo waaqsi lahayn ay igu dhacayso haddii aanan dilin wadaadadiinna halkan fadhiya midkood. kolka si aanan dhammaantiin idiin warjeefin waxaa ila habboon inaad iska soo saartaan wadaadkii aan gowrici lahaa. arrintuna ogaada oo waa degdeg. haddiiba wadaad ka mid ah ayay soo muquuniyeen intay farta ugu fiiqeen. kii oo argagaxsan buu sidii ari iideed intuu dhegta u soo qabsaday dibadda ula soo baxay oo wax ma yeeline aqaladiisa midkood dhex fadhiisiyey. isla markiibana tooraydiisii intuu galka kala soo baxay ayuu sabeen meelaha taagnayd ku gowracay. isaga oo tooraydii gacanta ku haysta, dhiigguna uu ka tifiq leeyahay, ayuu wadaadadii ula galay. markaas buu ku yidhi, awyaalow, xidiga sheeggii wuxuu haddana igu yidhi, waa inaad wadaad labaadna gowracdaa, haddii kale badbaadi maysid. kolka waxaan idinka rabaa. hadalkii oo aan weli afkiisa ka soo dhammaan ayay sidii loo gadooday dhagax yidhaahdeen. naftaa macaane ilidii uu ku hortaagnaa ayay isku buurteen, iyaga oo kutubtiina gooshii kaga tegey, kabihiisii mid iladayna aan lagu arag. argagax baa dhammeeyey. ku waliba hortiisa ayuu u cararay, isaga oo aan garanayn halkay caguhu ku simi doonaan. waxay sii cararaanba markuu istusay inay xuurto la dhaqaaqi la'yihiin oo qorraxdiina ay baalka sii dhiganayso ayuu wiilwaal wuxuu ka daba diray dhallinyaro fardooley ah oo reerka ku soo celisa. kuwaas ayaa midba meel ka soo helay, iyaga oo ka dhaadhiciyey garaadku inaanu wadaadkii hore dilin, iyagana dili doonine uu arrinta xujo uga dan lahaa. xujo uu ku muujinayey in qalabka dagaalku uu ragga lama horaan u yahay, hadduu wadaad yahay iyo hadduu waran la yahay labadaba. iyaga oo cagamurux la ildaran asii dhagadhan ayaa aqalkii garaadka lasoo hordhoobay. dabadeed markay daal tirteen oo ay dadadii ka ba'dayna wuxuu ka wada simay deeq fara badanoo wuxuu ku markaday ay ku iloobeen. wadaad haddaba culimmadii maalintaa ku jiray oo ay muuqato in tusaalihii garaadku uu ku daxay ayaa waayadii dambe waxaa la arki jiray mar walba isaga oo gacanta midig ee waran deelaysan ku wata, isla markaasna kitaabka qur-aanka ahi uu garabka uga laalaado. maalin dambe ayaa ina dhallinyari wuxuu ku yidhi, awgayow, labadaani ismaba lehee maxaad u wada sidataa maad mid iska dhigtid? wadaadkiina wuxuu ku jawaabay weer uu inankii la yaabay, asuu wiilwaal madaxa u ruuxi lahaa. waa weedhii ahayd, maandhow, kitaabkana eebbaan u sitaa, warankana aadane. xilligii wiilwaal talinayay iyo kadibba soomaalida hiddaheeda laguma aqoon madaxda cusubi inay ka leexdaan raggii hore ee ay guddoonka ka dhaxleen tabihii ay wax ku maamuli jireen. si fudud uma ay soo rogi jirin xeerar hor leh oo iyaga uun la fil ah. ha yeeshee guddoonka banka jigjiga iyo geyiga ku xeeran kolkii wiilwaal loogu dhawaaqay ayuu la soo baxay xaajo ugub ah oo uu hiddaha kaga bayray. sida qaramada casriga ahi yeelaan si u eg ayuu u abuuray xeerar isaga la da'ah, kuwaasoo uu fulintooda ka dhigay wax dusha ka saaran cid kasta oo taliskiisa hoos timaada, jabintoodana ciqaab weyn oo dilku ugu badnaa ay dadku ku mudan jireen. wuxuu guddoomiyey oo xeerka koowaadii ahaa, marba geyigu hadduu geyi colaadeed yahay, nin kastaaba ha sheegtee in faras oo idil goob qura la isugu keeno laguna dhaqaaleeyo. oo faras keliyihii ma dagaalamee wuxuu iyana qasab ka dhigay dhallinyaradii timan cagaarta ahayd ee fardaha ku gulfi lahayd oo qalabkoodu u dhan yahayna inay isla goobtaas diyaar ku noqdaan. labada arrimoodba wuxuu uga jeeday feejignaan iyo haddii reeraha lasoo weeraro
in colka degdeg la isaga caabiyo oo marna aan tolka degnaan laga helin. Heerka labaad ee uu soo rogay wuxuu ahaa karinla awr oo idil in isna meel lagu wada hayo oo baadi iyo banjoognimo laga dhowro. taana wuxuu uga dan lahaa haddiiba ay lama huraan noqoto col aan la iska celin karin in laga qaxo, in gaadiid la'aan awgeed aan reeraha qaarkood meesha lagaga tegin, hadhowna aan la darfagoosan. markaad haddaba u fiirsato fardaha ciidanka iyo awrtaba siduu ugu taliyey ayay ku caddaanaysaa in garaadku ahaa tabaha dagaal aqoonta nin wax weyne uga bilownaayeen. dhinaca diyaarka dhigidda joogtada ah ee ciidamadana aan wax u ogeyn ammaan duulayaashii la xilliga ahaa ee bari iyo galbeedba dunida ka caanbaxay. xeerka saddexaad ee garaad wiilwaal uu soo rogay dhaqaalaha ayuu ku saabsanaa. wuxuu guddoomiyey qoysaska tolka inaan qaarna dhereg iyo calool buuxda ku seexan, qaar kalena hamuun iyo harimo la'aan la weydoobin. hiddaha soomaalidu wuxuu ahaa reerka saboolka ahi inuu midka hodanka ah neef ama laba ka maashado, inta ay irmaan yihiin shafeecsado, goortii ay guraan amaba ay rimaanna uu reerkii awalba iska lahaa dib ugu soo celiyo. waxay ahayd arrin dhaqanka miyiga aad ugu fog, si aan fulinteedu sandullo ahayne ay samafal ahayd. waxay badanaa ku xirrayd reerkaa hodanka ah ninka ugu weyni siduu deeqsi iyo waxgarad u ahaa iyo kolba inta ay isu jiraan reerka nacfiyaridu hayso ee wax ka maashanaya. wiilwaal isagu dhaqankaas samafal kama dhigine qasab buu ka yeelay. reer geel badan xerada ugu jiro ayuu goor subaxa ku soo waabariistay. hal ama laba intuu ka soo eriyey buu reer aan tuludna lagu ogeyn gacanta ka geliyey. nin awr badan leh ayuu laba ama saddex ka soo eriyey oo ku wax uu ku guuro aan haysan aqalkiisa ku hor arumay. waxay la ahayd kadin geela nin haysta oo dhiiraha carruurtiisa ay caanuhu ku baryaan, iyo nin aan halina u foofayni intay tol wada noqdaan inay col ku soo duulay si wada jir ah ay ugu jirib dhigaan. taasina waxay i xusuusisaa laba meelisoo ku jiray allaha u naxariistay aadan gurey maxamed cabdille ti xogatus ahaydoo nin ay hilba ahaayeen uu beri u mariyey. waa meelisyadii halqabsiga noqday ee ahaa nin ardaaga jiifa iyo nimaan soo afurinaynin inay hiil u soo wada ordaan. sow-an garaf maaha. qabaa'ilka soomaalida iyo kuwa gaaluhu waxay muddo dheer ahaayeen xoolo raacato darisa. wixii ka horreeyey qarnigii 20aadna waxay labada qoomiyadoodii si joogto ah ugu halgami jireen lahaanshaha ceelasha iyo dhulka ay biyihiisu dhow yihiin ee waraabka xoolaha iyo dadkaba aan looga maarmi jirin. dhinaca soomaalida waxaa dirirtaa ugu badnaa wiilwaal iyo tolkii uu garaadka u ahaa. gaalahana waxaa boqor u ahaa dagaalyahan macangag ah oo gaalgurey ay soomaalidu u tiqiin. haddaba dabayaaqadii qarnigii 18aad ayay dagaalo ba'ani degaanka jigjiga labadaa qolo ku dhex mareen. inkastoo gaaluhu ay xoogaa bartiraha ka itaal roonaayeen, haddana si ay ku dhacdayba waxay markii dambe gaareen is-afgarad ku saabsan biyo qaybsiga ceelkii banka jigjiga loogu soo aroori jiray. waxay ku heshiiyeen maalinta gelinkeeda hore inay gaaluhu ka cabbaan, gelinka dambena uu bartiruhu xoolaha ka waraabsado, reer gurigana uga dhaansado. hase ahaatee muddo gaaban kadib ayaa waxaa soo ifbaxday heshiiskaas inuu bartiruhu ku hulgan yahay, gaaluhuna ay ku guulaysan yihiin. sababtuse maxay tolow ahayd? waxaa la yidhi dhulka ay jigjiga ku taalli waa dhul jilicsan, sidaas darteedna ceesha laga qotaayo si fudud bay u duntaa. gaaluhu waa berigii ayay yimaadaan ceeshii oo xalay si wacan u maaxatay, markaas bay xoolaha ka waraabsadaan, sidii kale oo ay doonaanna uga muraadsadaan. gelin dambe ayaa la soo gaaraa, kolkaasoo sidii lagu heshiiyey ahaa xilligii uu bartiruhu lahaa. hase ahaatee iyaga iyo xoolahooduba waxay dawda soo gaaraan ceelashii oo cagtii geela iyo isdhafadhaafkii dawlisyadu ay jilciyeen. dabadeedna dhowr hormo oo keliya markii ay ka waraabsadaan ayay wada dumaan, iyada oo intoodii badnayd xoolihii ay soo aroorsadeen ay ka ooman yihiin, haamihii dhaamankana aan lagu dhibcin. waxay isku dayaan inay mar kale qodaanoo ay ciidda dibadda uga soo saaraan, waxse ugama naasacadaadaan. maxaa yeelay iyaga oo weli ciid bixintii ku hawlan, xoolihiina ay ooman yihiin, ayay maalin walba qorraxdu ka dhacdaa. arrintaasi wiilwaal way u cuntami weyday. haddii uu ka cawdayna gaalgurey wuu uga garaabi waayey. markaas buu go'aansaday heshiiskii biyo qaybsiga ceelka jigjiga ku saabsanaa inuu buriyo. dabadeedna mahmaahdii ahayd rag ciil
cadaab buu ka doortay intay isdareensiiyeen ayay isaga iyo raggiisiiba waxay tala kaga ibabeeshay isla weynida gaalguray inay dagaal ka xigaan ha yeeshee tira iyo hubba laga badane sidee bay wax yeelaan oo dagaal waa lama huraane yay hiil u doontaanoo yay cudud iyo ciidan ugu irkan karaan kolba waxay tala gorfeeyaanba ugu dambaystii waxay ka badin waayeen inay u qayla dhaansadaan soomaalidii xilligaa ugu ooda dhoweyd ee xagga bariga ka xigtay kuwaasoo loo diray erga ka kooban odayo culculus oo uu garaadku soocay aadna uu ugu kalsoonaa oo waa dhaqankii hore ee soomaalidu tabtuu ahaaye si gobeed baa ergadaa loo martigeliyey toddobaad markii ay reeraha dhex joogeenna waxaa loo sheegay war ay aad u jeclaysteen waxaa loogu bishaareeyey fariintii garaadka in la yeelay codashadiisiina laga oggolaaday si aan leexleexad lahayn baa loogu ballan qaaday in loo soo gurman doono oo rag farda iyo qalab dagaalba loo soo diri doono si ay iyagu ceelka ugu adkaadaan ergadii oo sidaa u guulaysan ayaa u darbatay sodcaalkii ay ugu noqon lahaayeen galbeed iyo dhulkoodii ha yeeshee intii aanay anbabixin ayaa oday ku jiray cidihii ay martida u ahaayeen waxa uu weydiiyey su'aal ay ka garaabeen jawaab wacanna ay ka bixiyeen wuxuu ku yidhi ragow degmadayada iyo tiinu waa kala durugsan yihiin ninka laba lugoodka ahi toddobaad ka badan malaha waa isaga socdaa marka waxaan garan la'ahay sida annagu aan ku ogaanayno in ciidankiinnu uu noo soo dhow yahay iyo kolba inta uu noo soo jiro waa gartii su'aashuyo dhulku waa kala fog yahay waagaasna lama aqoon qalabka uu aadanuhu gadaalkii bartay ee aanu maanta haysanno qalabka iyada oo kumayaal mayl la isu jiro la iska maqlo fariimahana la isugu tabiyo odayadii ay su'aashu ku socotay ee martida loo ahaa ayaa isku noqday cabbaar kadibna ergadii ayay u yimaadeen iyaga oo jawaab u wada waxay ku yidhaahdeen hadda iska ambabaxa reerihiinna markaad gaadhaan warmihiinna xayr ama subag mariya dabadeedna dul saara xero walba bawdkeeda marka aad ku aragtaan habaas yar oo fuulay waxaad ogaataan 2 maalin socod in ciidanka iyagu uu idiin soo jiro mugga xigana haddii aad aragtaan habaaskii oo warmaha wada qariyey waxaad ogaataan in 1 maalin socod uu ciidanka iyagu idiin soo jiro waxay baaq ka dhigteen siigada ka dhalan doonta qoobabka fardahooda iyo dhulka ay gaari karayso ee ay masaafadana uga qiyaas qaadan jireen sidaas baa maalintaa lagu kala tegay dhinaca kale intii ay ergadu bari ku maqnayd wiilwaalna wuxuu ku hawlanaa siduu dadkiisa ugu darbi lahaa dagaalka soo aadan ee lama huraanka noqday wuxuu bilaabay ragga xoog gala oo idil inuu gaar u sooco oo ciidaha dhexdooda ka saaro si ay ugu tababartaan halganka ay gaalaha la geli doonaan ee isha baalkeeda u soo jirsaday ciidankii ayuu si fiican ugu habeeyey goobta ba'an ee soo dhowaatay wuxuu u qaybiyey 5 qaybood mid walbana wuxuu u qayday dhinaca ay dirirta ka geli doonto midigta bidixda bartamaha hore iyo gadaal dagaalyahan walba wuxuu u sheegay qaybta uu ka tirsan yahay qayb walbana wuxuu u qeexay goorta ay dagaalka geli doonto iyo ragga ay ku geli doonto tiradooda waa habkii waayadii hore marka la duulinayo ciidamada loo qaybin jiray ciidanka sidaa loo habeeyo waxay carabtu ku magacaabi jirtay khamiis sidaad ku arki karaysid meeris ku jira gabaygii nabi ammaanka ahaa ee uu tirin jiray allaha u naxariistee imaam maxamed bin saciid al-buusiri waa gabayga burdaha loo yaqaan ee nabadgelyo ee naxariista korkiisa ha ahaatee rasuulka ciidamadiisa kolkuu tilmaamayay uu ku lahaa yajurru baxra khamiisin fawqa saabixatin yarmi bimawjin min alabtaali multatimi garaad wiilwaal waxaa ka go'nayd dirirta soo aadan inuu isagu ku guulaysto sidaa darteed wuxuu ku kacay tallaabo aan looga horraynin oo ninkii fulayoobi lahaa oo idil uu ku quusiyey colka meel ka gadaalaysa geed ku yaal ayuu labadiblo wuxuu ugu xiray axmed wiilwaal oo ahaa curadkiisii oo carruurtiisa oo dhan ugu jeclaa markaas buu dagaalyahanadii qaybaha ciidankiisa inta kulmiyey waxa uu ku yidhi nin walbow ogow gacantayda midig ayaan ku gowrici doonaa ninkii dib u jeesta oo goobta ka carar inta is yidhaahda geedka axmed ku xiran yahay gadaal ka mara waxay ahayd digniin kulul dhaar culusna uu ku adkeeyey gaalguray qudhiisu ma fadhiyin ismana dhigan weligiiba wuxuu ahaa nin aad u dhiifoon
wuxuu og yahay abaabulka dagaalka ee dhinaca Soomaalida ka oogan. bartamaha banka Jigjiga ayuu ka dhigtay saldhig iyo goob uu ku ciidan urursado. dhowr cisho gudahoodna wuxuu soo dhoobay guutooyin ku hubaysan dhammaan wixii qarab dagaal ahaa ee deegaanka Geeska Afrika xilliyada laga yaqeen. maalin walba dhanka uu bartiruhu joogo ayuu ciidamadiisa u soo durkiyaa ilaa ay isu soo jirsadeen meel ay iska arki karaan. waxay ka ahayd daandaansi waase lagu gartay. wiilwaal oo ahaa nin looga haray ammaanduulka iyo maamulka dagaaladu ma degdegsana. ma uu rabo in lagu hambooriyo dagaal aanu hubin inuu ku guulaysan doono. weli ciidankii uu bariga ka sugayay ma soo gaarin. ha yeeshee wuu soo dhow yahayoo siigadii fardahooda ayaa warmihii wada qarisay. siduu baaqu ahaa hal maalin socod oo keliya ayuu u soo jiraa. maalintii dambe ayaa waxaa la soo gaaray gaasaskii reer bariga subaxdii uu galabteeda filayay. barqa dheer markay noqotay ayuu midhacsaday gaalguray iyo raggii uu goobta soo dhoobay oo ka muuqda meel uu si wacan uga arki karo. isaga oo faraskiisii ku jooga ayuu hor taagan yahay ciidankiisii oo ay suuragal tahay inuu mar walba soo duuliyo. garaadkuna wuxuu rabaa inuu ku baajiyo haddiiba tashi caynkaasi uu ku jiro. dabadeedna isaga oo keligiisa ayuu u xawaariyey boqorka gaaluhu kobtii uu colkiisa ku hortaagnaa. wuxuu ku joogaa weyrax oo ahaa baxdowgii lagu yaqiin ee fardihii xilligaa la haystay ugu orodka dheeraa. tashiga uu ku socdaana wuxuu yahay si uu yeelaba inuu dib u dhigo dagaalka kafoolka ah ee labada ciidan ay fooda isku dari doonaan. wuxuu diidayaa iska hor imaadka weyni inuu dhaco iyada oo aan weli la gaarin dharaarta gelinkeeda dambe oo ah marka uu filaayo in gurmadka bari uu soo gaari doono. kolka isagu lama gudboona inuu helo tab uu dib ugu dhigi karo dagaalka kafoolka ah ee labada ciidan intay birta iska aslaan uu midba kan kale dhiiggiisa uu ku faraxlan doono. wuxuu wax maamiyo oo maskaxda tuujiyaba wiilwaal tabtii wuu helay. markaas buu isaga oo aan cidnaba la tashan faraskiisii weyrax ku jooga raggiisiina aan mid qorana ka wadan wuxuu u xawaariyey colkii gaaluhu kobtii uu ku urursanaa. meel la isaga tanaagoon karo kolkuu u soo jirsaday ayuu inta faraskii hojiyey boqor gaalguray wuxuu ku yidhi waxaa tahay boqor dagaalyahana oo la wada yaqaan. aniguna waxaan ahay garaad isaguna dagaalyahana oo magaciisu dheeraaday. kolka waxaa ila quman iyada oo aan ninba ninka kala dilayn inaynu labadeenna col tusno sida uu midkeen waliba ugu fogaaday tabaha dirirta iyo farda ku dagaalanka ka hor inta aanay labada ciidan fooda isdarin. gaalguray oo aan rabin in fulaynimo lagu maleeyo ayaa taladii wiilwaal halhaleel u oggolaaday. isaga oo raaciyey waan yeelay hase ahaatee ma adigaa dhoolatuska bilaabaya mase aniga. wiilwaal oo ay hubaal tahay in tashi cusubi ku soo kordhay ayaa ku jawaabay baranku aragnee adigu ku horree. markaas baa iyada oo aan erey kale la isdhaafsan waxay labadii ciidan dareemeen guray oo sida aad libaax baabushii u kiciyey. isla markiiba wuxuu ciribta ku dhuftay faraskii uu ku soo dagaal tegey. suu inta booday buu cirka galay markaasoo ay daawatadu mooday kob dhulka iyo hawada u dhexaysa in cabbaar lagu hakiyey. haddana bankii ayuu ku sii daayey. marna dhirta iyo boholaha ayuu ka dulbootiyaa marna si kadis ah ayuu u hojiyaa. mar kale neefkii oo aad u xawaareynaya ayuu inta dhabarkiisa ka soo meero bogga isaga dhajiyaa. in yar kadibna intuu labada lugood ciidda la helo dushiisii ku noqdaa kiyo aan orodkiisii inaba wax ka dhimin. mar kale warmihiisa midkood ayuu kor u ganaa. markaas buu intaanu dhulka kaga dhicin meel dhexe ka qabsadaa. mar kale geedaha midkood ayuu waranka ku halgaadaa. qaybta birta ah oo idil intuu jiridda kaga xabaaro ayuu haddana xoog kagala soo baxaa isaga oo weli ku jooga faraskii oo sidii u xawaareynaya. labadii dhinacba intii maantaa wada daawanaysay ayuu ashqaraar iyo afkalaqaad ku riday. sidii haddaba lagu ballamay tirtirfadkii lala yaabay ee gaalguray waxaa lagu xijiyey kuwii wiilwaal soo bandhigay oo noqday mid ka daranoo lala amankaagay. daawatadii iyo labadii colba wuxuu u muujiyey tabaha fardaha dushooda iyo hubkaba loogu dagaalamo. tabahaasoo ahaa qaar ay bulshada horay u tiqiiniyo kuwo cusuboo maantaa ka horow aan cidina arag. intii uu dhoolatuska ku jiray oo dhan wuxuu wiilwaal kolba jeedaalinayay halkii uu colkiisu tuuraa. ujeeddadiisu waxay ahayd dhoolatuskiisa inuu ku sii wado oo banka ballaaran uu kolba dhinac u cararo tan iyo inta guutooyinkii uu sugayey ay ciidankiisa ku soo biirayaan. taasina sidii uu rabay ayay u dhacday. markii la wada arkay
fardihii reer bariga siigadoodii oo mar keliya cirkii iyo dhulkii kala qarisay sow xoog hor lihi kolkaana kuma soo kordhin dabadeed ciidankii gaalluhu halkuu tuuraa intuu isha ku xaday ayuu weyrax cagta u rogay xawli la yaab leh ayuu ku gaaray goobtii uu ammaanduurahoodu dhoola tuskiisa ka daawanayay markaas baa waxaa la isweydiiyey muxuu ka doonayaa meesha uu ciidanka cadowgu dhooban yahay muxuu talow maagan yahay cidina lama oga wuxuuse rabaa inuu ballankii ka baxo oo dagaalweynaha ka horba uu boqorka gaallaha dhegta dhiigga u daro gaalguray tashiga caynkaasa maba soo rogin xawaaraha wiilwaalna wuxuu u haystaa inuu qayb ka yahay tirtirfadkii ay isku ogaayeen dabadeedna isaga oo sidaa isaga baraadla ayuu ku war helay hooto duud dheerta qaybteeda hoose kaga dheggan iyo isla markiiba waran isna hardaad ku haleelay oo xudunta batankeeda kaga taagan kaas baa inta xidmihii calooshiisa harakeeyey cadcad u rogay oo haddana dhabarkiisii ka kuday sow kolkaana cid walbaba uma caddaan mar aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku beeri doono hase ahaatee intii aanu faraskii ka duulin ayuu gaalguray istiilayoo labadiisii waran midkood gacanta bidix la helay wiilwaal oo meel aan ka fogeyn ka muuqda ayuu ku tuuray isna gaashaankii uu bidixda ku haystay intuu isaga dhigay ayuu hadheen isaga delfiyey sidaana kaga badbaaday dharaartaasna waxaa sidaa ku ahaaday ka sabaan dagaalyahankii ay gaalluhu hasha ku maalayeen garaadkuna markuu hubsaday boqorkii gaallaha inay naftii daysay ayuu marada u taagay ciidankiisii iyo kuwii soo xoojiyey ee gurmadka ugu yimid markaasba iyagiina lug iyo farasba sidii gamuunna fallaala laga ganay u soo gulfeen oo haddiiba bankii qof iyo siiga ka dhigeen wakhti iskama ay lumine si degdega ayay birta ugu boobeen guutooyin idiloo maantaa ka hor geesinimo lagu kuuyi jiray asiijoo horadii dhigay kadib halyeygoodii markuu wiilwaal ku hamuun tirtay muddo haddii dirirtaa laga joogo ayuu wiilwaal faanayoo gabyaana wuu ahaaye wuxuu tiriyey tixuu isku ammaanay goobtaana uu ku taariikheeyey waa gabayga ugu caansan maansada tirada yar ee garaadka naga soo gaadhay wuxuu yidhi xalay gelindhexaadkii miyaan gogasha soo laabay gurxanka iyo gooraanka iyo goohi iga yeedhay hanqargeeda laaya ah miyaa laabta iga guuxay ogaadeen gal duur iyo hadduu webi ka soo gaasay meeshiiyo gar loo gubay hadduu garowgu eedaamay guntadayey haddaan khaylidii labada naas geeyey asaan weyrax nadigii gashay u'gucu ma aad yeeshay gaaladii ka goor iyo ka goor fiibi nagu goysay guray maalintaan dilay colkeed inuu go'aan sheegtay golyaay maalintaan idhi darkii inay gashaan sheegtay meeshaan ka geylamay dadkii inuu go'aan sheegtay garbidaan ku tiirsaday rag inuu garab maraan sheegtay geeraarsho dheer iyo dagaal warangalaan sheegtay gacan iyo in geed laga hadliyo gobonnimaan sheegtay waxay ahayd guusha fudud ee aanu filanayn dharaartii uu wiilwaal goobtaa kala laabtay waa dharaartii uu isagu gashaday baalkii dheeraa ee guyaasha badan gaalguray uu madaxa ku sidan jiray waa dharaartii maalintii xigtay qorraxdii oo aan weli dhicin ay loodii bartidhaceelkii soo wada gashay iyadoo uu u hor cabbay sacii golye la odhan jiray ee caaradka ahaa garaadkuna uu lo'diisa ugu jeclaa waxay ahayd jigjiga iyo agagaarkeeda dharaartii uu geesigaasi soomaalida u soo gacan geliyey halkaasoo si ay ku joogaanba ay weli ku dhaqan yihiin sida laga garan karo sheekooyinka naga soo gaaray ee qaarkood aan barnaamijyadan idinku maqashiiyey wuxuu wiilwaal ahaa geesi dagaalyahan ah haddana keligii taliyuu ahaa wuxuu ahaa daafaca iyo daryeelka danaha bulshadiisa nin hurdada iyo harsigaba u seega haddana wuxuu ahaa isla bulshadaas nin gacan bira ku maamula marar badanna cayaayir ku laaya nin aad looga cabsado ayuu ahaa sidaasoo ay ahaydna waxaa dadkii uu u talin jiray ka soo dhex baxay rag isku taagay rag uu sina uga ilheli waayey gadaalkiina iyagu hah iyo huhba kaga yeersiiyey waxaa raggaas ka mid ahaa marahaygana ugu yaabadnaa nin la odhan jiray cigaal iley oo af iyo adinba garaadka in badan ugu babac dhigay sidiisa ayuu gabyaa ahaa oo sidiisa ayuu dagaalyahan ahaa oo sidiisa ayuu dadka uga digtoonaa goor walbana isaga ilaalin jiray waxay labadu ahaayeen xigaalo dhow ismase indha buuxin jirin wuxuu cigaal weligiiba ka hawoon jiray sida dadka kale inuu garaadka uga baqo nin la loolama waxbana aanu ogeyn ayuu ahaa sidaas awgeedna in badan ayuu garaadku isku dayey inuu dabinna u maleego
marnaba se waa ugu soo dhici waaye. ma yarayn inta jeer oo uu u soo diray dhallinyaro goor habeena gaadmo ku soo disha. hase ahaatee waxay ku soo noqon jireen iyagii oo uu cigaal qaarna laayay, qaar kalena uu dhaawacayoo wax jaban iyo wax jiisa uu ka dhigay. waagii dambe wiilwaal oo garan la si alla si uu cigaal uga ilhelo ayaa goor ay habeenbarkii tahay waxay sheeka dhex martay dumarkii u dhaxay middood. jeer dambe oo ay kala seexan lahaayeen ayuu ugu faanay geyiga ballaarka badan ee ay ku dhaqan yihiin inuu isagu rag oo idil ugu xirri badan yahay, ugu xeel dheer yahay, ugu geesisan yahayoo nin u soo bareeri karaaba aanu ku noolayn. markaas bay waa dahabe waxay ku tidhi garaadow, arrintu ma aha siday adiga kula tahay, dunida rag kalaa kula jooga. waxay ahayd jawaab uu aad uga argagaxay, maxaa yeelay ma ahayn mid uu marnaba filaayey. yaab iyo cabsi isku dhafan ayaa alla u keenay. waa kushadayoo waa kululaaday. meel uu jirayba shaki baa si degdeg ah maankiisa ugu soo uruuray. markaas buu weynaalistii uu ku fadhiyey inta kor uga booday qoftii dumar ahayd haw ku soo yidhi oo sidii libaax toog lala helay dusha kaga dhaca. isaga oo si laxaw leh kolba dhan ugu seeraarinaya ayuu ku yidhi, sheegnaa ninka aad og tahay ee cid kula ogi aanay geyiga joogin anigana ii babac dhigi kara. ogowna halhaleel haddii aad iigu sheegi weydo kurkaagu kuma ooli doono oogadaada inteeda kale. dabadeedna iyadii oo isku dayaysa farihiisa xoogga badan inay luqunteeda ka fujiso ayay tidhi, garaadow, ninka aan sheegayaa waa midka igu soo dhiiraday oo isaga oo og inaan adiga kuu dhaxo habeenada aad iga maqan tahay igu soo dheelmada. waa ninka waaga ii bariya isaga oo iga raba inaan dharka isaga furo. markaas buu sidii hore si ka daran u carooday. umalkii ku soo kordhay ayuu qarsan kari waayey. sida baarqab gorongoray oo qooqii gugu uu la tegey ayuu qowrallada abuurka keenay. wixii ay dhegihiisu maqleen ayuu rumaysan kari waayey. kolkaas buu inta haweenaydii sii daayey hadalkiina u qaboojiyey wuxuu ku yidhi, sharac allee, ninka sidaa igula kacay magaciisa ii sheegoo degdeg igu sheeg. waxay tidhi, anigu haatan cidnaba magac dhabi maayo, ha yeeshee waan kuu tilmaami oo si aad ku garato ayaan kugu sheegi. wuxuu yidhi, waa tahay, bal ii tilmaan. waxay tidhi, waa ninka marka saa dambe geedka shirka la isugu yimaado ku lulmoon doona. tilmaanta dahabo wiilwaal ma ay solin, mana garan dulucdii ay ka lahayd. markaas buu weydiistay inay arrinta u balballaariso, taasoo ay kaga jawaabtay, habeen dambe marka aad reerkaaga kala jirto ayuu ninkaasu ii iman doonaa. aniguna intaan sheeko ku asqaysiiyo ayaan dhab u daahin doonaa. gelin hore iyo gelin dambeba intaan haasaawiyo ayaan soo jeed ku gaarsiinayaa barqadii iyo xilliga uu raggu geedka shirka ku soo ururi doono. ileen xalay oo dhan buu soo jeedee ninkaasi geedka la fadhiyo ayuu ku lulmoon doonaa. kolba madaxa ayaa laabta uga dhici doona. adiguna sidaas baad ku garan doontaa. habeenkaas gelinkiisii dambe garaad wiilwaal ma uu ladinoo il iyo baal isma uu saarin. dhinac wuxuu ka seexan kari waayey ninka sidaa u dhiiran oo carrada uu ka taliya kula dhaqan isaguna aanu weli garan karin. dhinaca kalena wuxuu ka fakarayay garashada dheer ee afadiisa iyo xujada ay hor dhigtay ee laga rabo saa dambe markay noqoto inuu furfuro. isaga oo labadaa arrimood jiefkii la qaban la ayuu waagii u bariyey. kolkaas buu odayadii reeraha wuxuu ugu dhawaaqay shir berri lagu kulmi doono oo aan cidina ka maqnaan karin. isla maalintaas gelinkeedii dambe ayay dahabana waxay fariin u dirtay cigaal ilay si uu cawadaas ugu yimaado iyaduna ay u haasaawiso. waa sidii uu rabeeye cigaal oo aad u faraxsan ayaa fiidkii horeba isa soo dhigay. meeshii ay ku ballamisay intuu sii fadhiistay ayuu ku sugay. iyaduna markii uu reerku xoolihii maalay ayay ugu timid. waxay ku bilowday sheekooyin hor leh iyo haasaawo ka macaan kii uu awal hore uga bartay. rag oo idil inay isaga ugu jeceshahay ayay laabta ugu riday. waxay ugu bashaaraysay si ay yeeshaba inay aakhirka isaga xilihiisa ku dambayn doonto. isna intuu hadalkeedii u beerraqay ayuu wada rumaystay. bogga iyo beerkaba wuu ka qaboobay. erey walba oo ay ku tiriba dhagaha ayuu u raariciyey. markaas buu maanka iyo maskaxdaba ku hubsaday. riyadaa quruxda badan ayuu fiidkii hore ilaa aroortii ku jiray. markii ay qorraxdii bari ka soo iftiintayna waxay ku ambabixisay erayo macaan badan isaga oo weli la jooggeeda sii raba.
iyada oo ilka cadcad iyo cirid madow badan ugu qoslaysa ayay sagootisay. wax yar kadibna geedkii shirka ayuu isa sii taagay, isaga oo dhanna ka faraxsan dhanna ka daalanoo haraaqoonaya. siday caadadu ahayd, geedka markii lagu soo dhammaaday ayuu wiilwaal hadalkii u hormaray. wuxuu wax ka yidhi arrimo ku saabsan daaqa iyo degaanka tolka iyo dadyowgii ay dariska ahaayeen, wixii qaan ahaa oo kaga maqnaa amaba iyaga lagu sheeganayay. waa nin wax u dan lehe hadalka wuu dheeraynayaa si uu shirka u daaliyo. intii uu dabeebanayay oo dhanna raggii goobta fadhiyey ayuu mid mid isha ula raacayaa, bal inuu arko kii ay dahaba u tilmaantay. barqaharaac markay ahayd ayuu indhaha ku joojiyey cigaal iley oo gamanyoonaya. qoorta ayuu laalaadinayaa, garkuna galowda korkeeda ayuu ku qotamaa. marba hoos ayay luqunta uga dhacaysaa, haddana intuu isgarto ayuu soo ceshanayaa. indhaha ayuu kolba isku qabanayaa, haddana intuu marmarto ayuu kala furayaa. wiilwaal oo tilmaantii afadiisa wax ka arkay ayay markaa wax u iftiimeen. cara ayuu ismadax maray, markaas buu si degdega cigaal isu dultaagay. warankii uu midigta ku haystay intuu dushiisa ku gelgelay ayuu ku tuuray su'aal aan xujo ka marnayn, isla markaasna sarbeeban. wuxuu ku yidhi, cigaalow halku xamay. isna intuu ujeeddadii gartay ayuu kaga jawaabay, ima xamane waa hamiyey garaad xusow. markaas buu wiilwaalna ku yidhi, cigaalow maxaad ku hamiday? naase dameeraad ma horaaddaah mase waa dambeeddo? cigaal oo inuu lulmooday dafiraaya ayaa dulucdii hamigiisa sidaa ku sheegay. dhammaan intii geedka joogtay ayaa la amankaagtay dabuubihii labada nin dhex maray iyo sidii fududeed ee uu cigaal isku xujo furay. waxaa la garan waayey naase dameeraad, horaaddo ama dambeeddo mid lagu tilmaamo. markaas ayuu garaadkii qudhiisuna inta iska aamusay halkiisii ka sii watay wararkii uu shirka u jeedinayey, isaga oo weli raggii goobta fadhiyey isha ku wada haya. wuxuu jeedaalinayaa cigaal mooye bal nin kale oo geedka ku lulmooda dabadeedna uu ruuxa weysiiyo. taasise ma dhicinoo ninna dabinkii uu dhigtay uguma soo dhicin. maxaa yeelay wuxuu is adkeeyaba cigaal baa mar kale si muuqata luquntii u laalaadiyey. markaas ayuu wiilwaalna hadalkii inta hakiyey, warankii kula boodayoo inta dushiisa ku gelgelay ku yidhi, halku xamay cigaalow. cigaalna sidiisii intuu ku jawaabay ayuu yidhi, ima xamana waa hamiyey garaadow. war bal sheeg, shirkana maqashii wixii aad ku hamiday. haddii kale intii aanu garaadku weedhiiba dhammaystirin ayuu cigaalna ka horgeeyey su'aal uu ku sheegay inay tahay wixii uu ku hamiyaayey, taasoo ahayd addimo goroyo majeenyaa mase waa lugo. dabadeedna garaadkii kolay ku tahay raggii oo idil ayaa sidii markii hore yaab la kala jeestay. waxay la ashqaraareen siduu mar labaad cigaal isku xujo furay iyo weliba dhumucda su'aashii uu iyaga soo dhex dhigay. runtii su'aal meesha ku jirta ayay ahayd, ha yeeshee ma ahayn tuu weligeed maankooda ku soo dhacday. waxay ahayd intii cabbaar ah su'aal ay baadigoobka jawaabteeda ku raageen. nin walibana wuxuu isku dayey kii garabkiisa fadhiyey inuu ka toydo bal addimo goroyo waxa lagu sheegi karo. waa garabgaab ay xoolihiina soo hoyaad yihiin. godkii galbeed ee ay ku qarsoomi jirtay ayay qorraxdii ku sii durkaysaa. lo'dii oo insaarixihina waxay tiigsanaysaa golayaashii la fadhiisan jiray iyo halkii ay weylaheeda ku ogeyd. ha yeeshee garaad wiilwaal weli waa taagan yahayoo isaga oo hubkiisii u dhan yahay ayuu dabeebanayaa. guurtidii tolka iyo raggii u dagaalami jiray ayuu la hadlayaa, isaga oo warka dheeraynaya oo si ka badbadis ah u faahfaahinaya. ninkii oday ahaa isaga daal warkiise, kii dhallinyaro ahaa ayaa daal u dhimanayo oo jeclaan lahaa maruun inuu garaadku shirka soo gebagabeeyo. iyagu waa moog yihiin, isaguse wuxuu weli jeedaalinayaa cigaal mooye bal cid kale oo meesha ku lulmoota dabadeedna uu ruuxa weysiiyo. waxaa la bilaabay in si hoose la isu weydiiyo, war hadal la is yidhaahdaa maba harine muxuu garaadku meesha inoogu hayaa? sidaanse ma ahaan jirine maxaa maanta ku soo kordhay? waxay ahaayeen su'aale ay dhexdooda iska weydiin karayeen, isagase aan cidina kula dhici karin. iska dabeebtaba mar saddexaad ayuu indhaha ku joojiyey cigaal oo inta madaxii kor u hayn waayey kolba laabta ka soo ceshanaya, iyada oo dhammaan raggii kalena ay qun u fadhiyaan oo daal foolkooda ka muuqda ha joogtee aan mid lulmoonayaa ku jirin. markaas buu dhab u cadhooday. umil daraaddii ayuu dhulkii cagaha ku hayn kari waayey. ilkaha ayuu isku lisayaa. wuxuu u hamuuman yahay dhiigga ninka gurigiisa iyo afadiisa ku soo dhiiraday. waxbaa kuu bidhaamay intuu isidhi ayuu mar kale boodda ku dul joogsaday cigaal iyo halkii uu shirka ka fadhiyey. isaga oo kaalkii dushiisa ku gelgelaya ayuu kaga naxsaday erayadii uu hadda ka hor labada jeer weydiin jiray ee ahaa, halku xamay cigaalow.
cigaalna tabtii uu u jawaabi jiray intuu u jawaabay ayuu yidhi ima xamana waa hamiyey garaad xirsow wiilwaal oo ay la tahay moogaan inuu cigaal dabankii ugu soo dhacay ayaa dabadeed ku guulguulay war bal sheeg shirkana maqashii waxa aad ku hamiday haddii kale galabta hooyadaa way kaa gablami markaas buu cigaalna isaga oo deggan wuxuu ku jawaabay garaadow waxaan ku hamiyey naasa hablood ma jiir baa mase waa caddiin raggii shirka fadhiyey ayaa haddana cabbaar ku hogmay su'aashii uu soo hordhigay nin waliba wixii ay la ahayd ayuu goobtii ka yidhi ha yeeshee ugu dambaystii way isku raaci kari waayeen naasaha haweenku baruur iyo jiir midka lagu sheegi karo kuwa heli kari waayey marmarsiyo uu cigaal inay ku xujeeyo ayuu wiilwaal shirkii soo gebagabeeyey dabadeedna nin waliba reerkiisii ayuu u dheelmaday iyada oo lagu wada howlan yahay helista jawaabaha su'aalihii cigaal soo jeediyey fii dambe mar ay tahayoo xoolihii ay xeryaha ku xasileen ayay wiilwaal iyo afadiisii isku keliyeysteen wuxuu uga warramay shirkii iyo sidii ay wax uga dhaceen wuxuu ku yidhi raggii shirka joogay nin keliya ayaa 3 jeer iila ekaaday wax lulmoonayo oo hurda hayso ha yeeshee kolkii aan weydiiyey sababta uu 3 jeerba la lulmooday ayuu ku andacooday wixii uu la fooraray inaanay lulmo ahayn uu ku hamiyaayey arrimo wareeriyey oo uu jawaab u waayey 3 jeerba wuxuu soo bandhigay su'aalo lala yaabayoo jawaabtooda shirkii oo idili uu garan waayey isagiina loogu garaabay sidaa darteed aniguna waan iska daayey kolkii aan u waayey marmarsiyo aan ku xujeeyo kolka sharaca leehayga qarinne ninka magaciisa ii sheeg dahaba ayaa markaa ku tiri iska seexa garaadow shirka dambe ee raggu isugu imaan doono ayaan waxaan ninkaa kuugu yeeli astaan aadan marnaba ku garan waayi doonin habeen dambe intaan u yeedho markuu ii yimaado ayaa ninka go'iisa sare tafta ka goynayaa adiguna markaad geedka isugu timaadaan waxaad isu fiirisaa go'iisa iyo go'yaasha ragga kale ninka isoo hawaystay waa midka uu go'iisu taf go'naan doono hawraarsan ayuu yidhi habeenkaana sidaas bay ku kala seexdeen maantii lagu ballamay ayaa la isugu yimi geedkii lagu shiri jiray siduu tashigu ahaana xalay gelinkii hore oo dhan wuxuu cigaal la joogay dahabo oo uu qalbigu u ruxanayey cawaysin dambe ayuu ka dheelmaday isaga oo faraxsan asii aan ogayn go'a uu huwan yahay inuu taf go'an yahayoo mandiil ay nabasta soo gashatay ay dahabo kaf kaga siisay had iyo jeer cigaal inay geedka shirka wuu ku soo hormari jiray maalintaasna iyada oo rag yari fadhiyo ayuu soo gaaray go'iisii intuu doonyooday ayuu nin ay shaxwadaag ahaayeen jaro la dhigtay cabbaar kadibna intay shaxdii iska joojiyeen ayay ku biireen raggii kale oo marna kaftamaya marna iswaraysanaya waxay kaftanka iyo iswaraysigaba ku sugi jireen garaadka oo ay u badnayd goor uu raggu jectaday inuu geedka yimaado cigaal oo dhagaha u raaricinaya gabyaatix uu dhowaan tirshay ragga ku maaweelinaya ayaa gundihiisa eegay suu wuxuu arkay go'dii uu doonyeysnaa qaybtiisa hoose oo cad idili uu ka maqan yahay markaas buu inta yaabay hoos isu weydiiyey talow go'ow waaba cusbaaye yaa tafta gooyey dareen baa galay weli wuxuu xusuusan yahay shirkii hore siduu ugu sigtay wuxuu u qaatay kanina inuu yahay shirqoo la rabo in dilkiisa loogu marmarsoodo sow inuu haddaba si degdeg ah maanka uga shaqaysiiyaa lama gudboonaan markaas buu sidii isaga oo la faqaaya raggii geedka fadhiyey midba mar soo dhinac fadhiistay go'ii uu nin waliba huwanaa ayuu taftiisa cad ka gooyey si go'yaasha la qabo oo idili ay isku mid u noqdaan kiisa keliyihiina aanu u tafgo'naan goortaas goor aan ka fogayn ayuu wiilwaalna madashii soo gaaray halkii geedka ugu hooska badnayd ayuu salka dhigay markiibana wuxuu bilaabay hadal hadoofaho uu ku qarinayo dantii dhabta ahayd ee uu shirkaba u wacay wax yar kadibna intuu hadalkiisa kadiisa u hakiyey ayuu seeftiisii galka kala soo baxay tii oo gacantiisa midig ka walac leh ayuu la dul tegay cigaal kuna yidhi muxuu cigaalow go'aagu la tafgo'an yahay kiina isaga oo aan jawaabin ayuu fiiriyey qaybta hoose ee go'iisa wuxuu iska dhigayaa wuxuu garaadku sheegayo nin aan markaas ka hor warba u haynin haddana raggii shirka fadhiyey intuu isha wada mariyey ayuu wiilwaal kor u eegayoo ugu jawaabay garaadow waa runtaayo go'ayga cad waa ka maqan yahay maxaase aniga igu goonni ah haddiiba inta badan ragga meesha fadhiya ay go'yaashoodu wada taf go'an yihiin mar qura ayuu nin waliba go'iisii hoos u eegay mase cad dhan baa ka maqan yaab baa lala kala jeestay garaadkiina amankaag buu la madax wareeray maalintaasna cigaal xujo waa loo waayey xirribtiisii weynayd ayaa badbaadisay ha yeeshee wiilwaal weli ma samrin goor aan la filayn ayuu wiilwaal shirkii soo gebagabeeyey isagoo guddoomiyey cigaal mooye ragga kale inuu geedka ku kala dareero
sababta sidaa degdega uu shirka ugu soo gabagabeeyey waa la garan waayey waxaase ka daraydoo nin sheega la waayey sababta uu cigaal keliya ula haray inkastoo aan cidina la ogeyn haddana waxaa ka go'nayd inta aan qorraxdu dhicin inuu cigaal ka faraxasho sidaasna uu ku eedsiiyo dhiiridii uu afadiisa ku haweystay waxaa geedkii isugu soo haray wiilwaal cigaal iyo labadoodii sange oo meel u muuqata ugu shakaallaa dabadeedna wiilwaal oo maagan inuu ku asadihiyo sabab ka duwan tii uu ula haray ayaa cigaal ku yidhi in dhoweyd si gaar ah uma aynu kulmin sidaa darteed baan waxaan gartay ilaa qorrax dhaca in aynu iska sheekaysanno innaga oo manjamarayn iyo taxtaxaash banka jigjiga ugu dhex saqaafayna weedhaas iyada ah cigaal umuu riyaaqin wuu dareensaday wuxuuse goostay inaanu taladiisa diidin isla markaana uu aad isaga ilaaliyo ha la yeelo garaad ayuu ugu jawaabay isaga oo weliba u ilka caddaynaya waa kuwaa haddaba iyagii oo bartamaha banka dhex saqaafaya labadoodii baxdowna ku jooga mid waliba qalabkiisii dagaalka ayuu ku raran yahay danta garaadku waa cigaal inuu gaadmo ku aao inuu haad ka helo oo markuu isdhigto uu labada waran isu dhaafiyo waa kuwaa isgarab wada labadoodii farasoo si qabow ula kadlaynaya wiilwaal baa sheekaynaya oo hadba iska keenaya qosol aan bushimaha dhaafsiisnayn cigaalna isaga oo ka digtoon ayuu ka wargurayaa ilqooreedda ayuu ka eegayaa wuxuu og yahay ilmilicsana allaha ka dhigay hadduu ishalmaamo inuu halhaleel kurka kaga jari karo gacanqaad kasta oo xaggiisa laga fili karo ayuu si dhiifoon ugu tooghayaa haddii ay cabbaar sidaa ku wada socdeen wax ilbaad ahna uu cigaal ka waayey ayuu wiilwaal ku tashaday inuu xeesha bedelo faraskii uu ku joogay ayuu ka degay markaas buu cigaalna kiisii ka degay dabadeedna iyaga oo labadii neef taxaabanaya qorraxdiina ay sii galbanayso ayaa waxaa wiilwaal u muuqday haad gorgor iyo dafa miirana oo meel dhulka iyo daruuraha dhexdooda ah ee haabaysa kolbana dhinac u dilaamaysa mar keliya ayaa waxaa ku soo dhacday inuu haaddaas cigaal ku jeediyo markuu kor u eegana uu luqunta ka rido kolkaas buu inta socodkii faraska iyo kiisiiba hakiyey wuxuu ku yidhi cigaalow bal maleeyo maxay haaddaasi ku dhacaysaa cigaalna ileen waa nin dhab u digtoone markiiba wuxuu gartay dulucda su-aashii wiilwaal isaga oo aan kor iyo hoos midna eegayn indhihiisuna ay gacmaha garaadka dul joogaan ayuu ugu jawaabay marba labadeenna kii eega ayay ku dhacaysaa wiilwaal baa kolkaa candhuuf dib u liqay waxay ahayd maantii uu naftiisa u qirtay xirrib iyo xeel af iyo adin sir iyo saaq sina inuu cigaal ilay kaga saa'id calayn waayey markaas buu go'aansaday inuu la nabdo dabadeedna wixii hub ahaa ee uu sitay intuu dhulka ku daadiyey ayuu gacan salaameed u soo taagay isaga oo ku leh ina adeerow galabta laga bilaabo colaadaadu iguma jirtee tayduna ha kaa baxdo marka hore ooryahayga iyo guryahayga iidaa mugga xigana garaadka aan ahay sida dadka kale iigu maamuusoo shirka bartida ha igula akeekamin hana isku kaytaagin cigaal bay kolkaa neef kurule ka soo kuday inkastoo dhiiladii uu qabay ay laabtiisa weli wax kaga harsan yihiin haddana hadalkii uu maqlay wuu u bogay markaasbuu ugu jawaabay waa tahay garaad taladaada ayay ku dhan tahay loona noqon maayo waa hawraarsan iyo guddoon galabtaasna iyada oo nina aanu midka kale ka irdhaysnayn ayay reerahoodii u kala carraabeen waa dambe oo uu gaboobay ayuu garaadku sheekeeyey wuxuu ku dheeraaday hoog iyo ba wixii uu rag ku falay wuxuu ku xijiyey wixii isagana ay rag kale ku markadeen iyo tabihii ay uga saa'id caleeyeen si gaara wuxuu u xusay arrintii isaga iyo cigaal ilay dhex martay ee ay waagii dambe ka heshiiyeen kolkaas buu sheekadii wuxuu ku soo idleeyey rag hooyadiisna waan u hayayoo walaalow wax uu ku dhaamo waan waayey taasoo noqotay hawraar ay soomaalidu ku mahmaado gaar ahaan markii la isla helo tan eebba mooye awood kasta oo kaleba inay soo hodin leedahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo